salaaman dhammaan asxaabta nagu xiran waan soo laabtay maanta waxaan idiin wadaa filim jacayl oo ay ka buuxaan jacayl nacayb iyo argoosi dhexmara carruurta qoysaska hodanka ah ee bulshada sare. filimku wuxuu ka hadlayaa jiilka labaad ee qoysaska bilyaneerada ah. atooraha sheekadu waa Sehyoon oo 19 jir ah kana tirsan ardayda dugsi sare oo sumcad weyn leh. waa cunuga ugu weyn ee qoyska leh Group shirkad weyn oo dawooyin ka samaysa Kuuriyada Koonfureed. Sehyoon waa dhalinyaro qurux badan oo soo jiidasho leh waxaana uu had iyo jeer noqdaa xarunta dareenka meel kasta oo uu tago. dugsiga gabdhaha oo dhan way jecel yihiin, xitaa qaar ka mid ah macallimiinta dada yar ayaa si qarsoodi ah u muujiya xiisahooda iyagoo marmarsiinyo ka dhigaya inay buugaag siiyaan si ay fariimo qarsoon ugu gudbiyaan. inkastoo uu bannaanka uga muuqdo nin madax adag oo fallaago ah, nolosha qoyska Sehyoon ma aha mid farxad leh. hooyadiis waxay geeriyootay 2 sano ka hor, aabihiisna mar walba waa nin kulul oo dan kama laha si uu uga hor yimaado aabihii. Sehyoon wuxuu hindisaa qorshe khiyaano leh. wuxuu adeegsadaa soo jiidashadiisa si uu u soo jiito haweenka isku daya inay aabihiis u dhowaadaan, isaga oo ka dhigaya inay jeclaadaan. dabadeedna si qabow ayuu uga tegayaa qof kasta oo si ula kac ah ugu soo dhowaada qoyskiisa isagoo dano gaar ah leh. wuxuu noqdaa bartilmaameed uu Sehyoon ku ciyaaro dareenkooda. dugsiga Sehyoon wuxuu saaxiibo dhow leeyahay 2 qof, mid waa Suji oo ah gudoomiyaha golaha ardayda islamarkaana ah gabadha qoyska leh Myungjung Group. inkastoo ay ku nooshahay nolol raaxo leh, haddana qoyska Suji waa kala daadsan yahay kadib markii shirkadii aabaheed la kulantay dhibaato weyn oo keentay dacwado sharci ah. waalidkeed way kala tageen. Suji waxay aaminsan tahay in hooyadeed ay khaladka lahayd, sidaas darteed xiriirka hooyo iyo gabadheed aad buu u xun yahay. saaxiibka kale waa Seju oo isaguna ka soo jeeda qoys bilyaneer ah islamarkaana caan ku ah inuu gabdho badan la sheekaysto. saddexdan saaxiib aad bay isugu dhow yihiin, mar walbana way istifaacaan haddii qof ku dhiirado inuu midkood dhibo labada kale islamarkiiba way soo farageliyaan oo cashar bay u dhigaan. xitaa ficilo aad u dhow sida gacanta garabka la saaro ama madaxa lagu tiirsado waxay u arkaan wax caadi ah. muddo yar gudaheed waxaa la gaarayaa maalinta qalinjabinta. intii lagu jiray xafladda, Suji waxay aragtaa ardayad ay dhibayso macalinka fasalka si aan habboonayn. iyadoo geesinimo leh ayay u orodaa si ay u caawiso. waxay sidoo kale si cod dheer ugu jeesjeestaa sirihiisa mugdiga ah, iyadoo kula talinaysa in haddii uu u baahan yahay baaritaanka DNA-da uu aado isbitaalka qoyskeeda, taas oo uga caraysiisa si weyn. isla goobtaas Suji waxay la kulantaa macalinkeedii hore ee farshaxanka. waxaa soo baxaysa in Suji ay hore u jeclayd macalinkan, xitaa si geesinimo leh ayay ugu qiratay dareenkeeda. laakiin xiriirkaas aan qaangaarka ahayn waxaa si degdeg ah u joojisay hooyadeed. wakhtigaas macalinku wuxuu ku yidhi hadallo dhaawac leh, isagoo ku amray inay joojiso riyooyinka aan macquulka ahayn oo ay diiradda saarto waxbarashadeeda. arrintaas ayaa Suji qalbigeeda ku reebtay nacayb. dhowaan ayay ogaatay in macalinka farshaxanku guursanayo, balse gabadha uu guursanayo ay xiriir qarsoodi ah la leedahay isla macalinka fasalka ee ay neceb tahay. Suji waxay go'aansataa inay fursadan uga faa'iidaysato argoosi. waxay si qarsoodi ah u rakibtaa kamarad waxayna duubtaa cadeymo muujinaya xiriirka khaldan ee labadooda. dabadeedna waxay ka codsataa Sehyoon iyo Seju inay ku soo bandhigaan muuqaalkaas bartamaha xafladda qalinjabinta. sida la filan karo, qof walba aad buu u naxaa. macalinka farshaxanku sumcad weyn ayuu lumiyaa, argoosiguna si buuxda ayuu u guulaystaa. si kastaba ha ahaatee, gudaha qalbigeeda Suji weli farxad ma dareemayso. wakhtigan ardayadii Kyungju oo ay Suji caawisay ayaa u timaada si ay ugu mahadceliso. waxay sheegtaa inay aad ula dhacday saaxiibtinimada saddexdan qof, waxayna codsataa inay sawir wada galaan. kadib ninka ay Suji jeceshahay oo lagu magacaabo Kyung ayaa gaari ku yimaada si uu u qaado. marka ay hortiisa joogto, Suji waxay isla markiiba isu yeeshaa gabadh degan oo xarago leh. laakiin xafladii dhexdeeda, markii Suji rabto inay si rasmi ah u shaaciso xiriirkooda, Kyung si qalbi adag ah ayuu gees ula baxaa. wuxuu si kulul ugu sheegaa inay yihiin oo keliya kuwa hadda isbartay, wuxuuna ku yiraahdaa inay joojiso mala-awaalka sababtoo ah heerka qoyskeedu hadda la mid ma aha kiisa. iyadoo aad uga xanaaqsan in sharafteedii la dhaawacay, Suji si go'an leh ayay meesha uga tagtaa. dhanka kale, Sehyoon iyo Seju waxay aadaan baar si ay wakhti ugu qaataan. Sehyoon wuxuu markiiba la dhacsan yahay haweeney qurux badan oo ka weyn, wuxuuna bilaabaa inuu la sheekaysto. labadoodu waxay wadaagaan wakhtiyo jacayl leh, laakiin nasiib darro haweeneydan waa hooyada Kyungju, gabadhii ay sawirka wada galeen subaxdii hore. markii Sehyoon guriga ku soo laabto, wuxuu la kulmaa naxdin weyn. aabihiis wuxuu hordhigayaa natiijada baaritaanka DNA-da, wuxuuna ku dhawaaqaa in Sehyoon aanu ahayn wiilkiisa dhabta ah. si kulul ayuu guriga uga eryaa, wuxuuna jaraa dhammaan xiriirka. niyad jab iyo murugo awgeed, Sehyoon wuxuu si aan ujeedo lahayn ugu wareegayaa wadooyinka. markaas ayuu xusuustaa taladii hooyadiis, haddii aad dib qabto samee diyaarad warqad ah oo cirka ku tuur, murugadaadu way duuli doontaa. Sehyoon wuxuu qaataa warqaddii imtixaanka, wuxuu ka sameeyaa diyaarad warqad ah. dabadeedna cirka ayuu u tuuraa. diyaaradii warqadda ahayd waxay si lama filaan ah ugu degtaa cagaha Taehe oo ahayd gabar meel u dhow fadhiday. markii ay damacday inay qaado oo u celiso milkiilihii, Sehyoon wuxuu durba si madhan u fuulay basi kadis ah. Taehe waxay fuushaa isla baskii markay aragto gabadha oo madaxeeda si joogto ah ugu dhacaya daaqada baska sababtoo ah hurdo badan. Sehyoon inkastoo uu murugaysan yahay wuu iska qoslaa. markii ay degaysay, Taehe waxay si kama ah u ridaa casuumaad loogu talagalay bandhig dhoobo farshaxan. Sehyoonna wuu soo qaadaa dhanka kale xaflad kale oo ay ka soo qayb galaan dadka bulshada sare. Kyung ninkii si xun ula dhaqmay Suji wuxuu si lama filaan ah ula kulmaa jacaylkiisii ugu horreeyey, waana Taehe hortooda. Taehe Kyung wuxuu noqdaa nin aad u daryeel badan oo naxariis leh. Taehe waa gabar aad u karti badan oo hadda heshay deeq waxbarasho oo buuxda oo ay bixisay shirkadda kooxda. markay Suji aragto ninka ay jeceshahay oo si diiran ula dhaqmaya gabar kale, masayr baa qabsada. waxay go'aansataa inay bartilmaameed ka dhigato. waxay u tagtaa Sehyoon waxayna ka codsataa inuu adeegsado soo jiidashadiisa si uu Taehe u jeclaado, kadibna si naxariis darro ah uga tago. bilowgii Sehyoon wuu diidaa sababtoo ah ma doonayo inuu qof aan waxba galabsan dhaawaco, taas oo keenta muran dhex mara isaga iyo Suji. xafladdaas gudaheeda, Sehyoon wuxuu mar kale la kulmaa hooyada Kyungju. hadda ayay ogaanaysaa inuu yahay saaxiibka fasalka gabadheeda, iyadoo ka baqaysa in sirtii baarka la ogaado
oo ay dhaawacdo gabadheeda waxay si degdeg ah uga baryaysaa Sehyun inuu aamuso isaguna uu ogolaadaa laakiin yaabka ugu weyn ee xafladdu wuxuu yimaadaa markii aabaha Sehyun iyo hooyada Suji ay masraxa fuulaan oo si rasmi ah ugu dhawaaqaan inay isguursanayaan si ay danaha ganacsi uga faa'iidaystaan. Sehyun iyo Suji labaduba aad bay ula yaabaan. Dhanka kale Taehae waxay tagtaa bandhiga dhoobada ee hooyadeed si ay ugu sheegto inay hadda haysato deeq waxbarasho oo aysan mar dambe u baahnayn inay lacag u soo dirto xiriirka. Iyada iyo hooyadeed aad buu u kulul yahay sababo la xiriira xanuunkii furiinkii hore. Kadib markay warka sheegto si degdeg ah ayay meesha uga tagtaa iyadoo jidka ku socota. Waxay ku sigataa inuu jiro gaariga uu wado Sehyun kaas oo waqtigaasi weyn u xanaaqsanaa oo xakamihiisa luminayay. Markuu Sehyun gaariga ka dego si uu u hubiyo xaaladeeda Taehae weli aad bay u cabsanaysaa. kadib markuu siiyo xogtiisa xiriirka si loo xalliyo wixii magdhow ah. Sehyun wuxuu helaa wicitaan degdeg ah oo sheegaya in wax ku dhaceen Suji. Waxaa soo baxaysa in Suji oo si daran uga naxday warka ah in hooyadeed guursanayso aabaha saaxiibkeeda uu dhow ay gashay xaalad argagax iyo burbur maskaxeed oo daran iyadoo ku sigatay inay samayso fal khatar ah. Sehyun wuxuu ku gaaraa waqtigii saxda ahaa, gacanteedana si adag ayuu u qabtaa isagoo si joogto ah u dejinaya ilaa ay isdejiso. Isla waqtigaas saaxiibkood Seju waxaa si adag u ciqaabaya awowgiis kadib markii uu gaari qaatay fasax la'aan oo uu dhibaato sameeyey. Markay saddexdoodii saaxiib mar kale kulmaan dhammaantood waxay aad uga xumaadaan guurka heshiiska ku salaysan ee waalidkood. Sehyun isagoo kaftamaya ayuu yiraahdaa malaha aniga iyo Suji waa inaan marka hore isguursanaa si aan qorshahooda u burburino. Inkasta oo ay u muuqato kaftan, xaqiiqadu waxay tahay in Sehyun muddo dheer jeclaa Suji, laakiin maadaama ay ku barbaareen qoysas jacayl yari ka jiro oo ay ka buuxaan khiyaanooyin iyo dano gaar ah, si fudud uma rumaystaan jacaylka Suji. Waxay keentaa shuruud. Waxay ku tiraahdaa haddii Sehyun doonayo inay isaga aaminto waa inuu fuliyaa qorshihii lagu heshiiyey inuu Taehae jeclaado kadibna ka tago markan si uu u caddeeyo dareenkiisa. Sehyun wuu aqbalaa. Saddexdoodii waxay bilaabaan inay qorsheeyaan sida loo waxyeelayn karo Taehae iyagoo adeegsanaya cinwaanka ku qoran kaarka casuumaadda. Sehyun oo si qurux badan isu diyaariyey ayaa ubaxyo la tegaya gurigeeda isagoo hubinaya inuu dhibco badan heli doono. laakiin si lama filaan ah qofka albaabka fura waa hooyada Kyungju. Waxay u malaynaysaa inuu u yimid iyada, sidaas darteed way argagaxdaa waxayna isku daydaa inay ka cayriso si aysan dhibaato u dhalan. Isla waqtigaas Taehae iyo Kyungju ayaa guriga yimaada. Kyungju horeba waxay u necbayd wararka xun ee laga sheegay Sehyun, sidaas darteed buuq ayay ka samaysaa arrinta taasoo ku qasabta Sehyun inuu si ceebaysan uga cararo. Markay Taehae aragto dhacdadaas, fikradii xumayd ee ay isaga ka qabtay ayaa sii xumaada. Si kastaba ha ahaatee Sehyun ma quusto. Wuxuu sii wadaa isku daygiisa. Wuxuu ku sugaa goobta baska isagoo iska dhigaya nin soo jiidasho leh, balse wuxuu ka helaa oo keliya indho quursi ah. Markii ay baska wada saaran wuxuu isku dayaa inuu ruxashada baska uga faa'iidaysto muuqaal jacayl ah, laakiin taa beddelkeeda wuxuu noqdaa qof ay rakaabku ku qoslaan. Xitaa wuxuu shaqaalaysiiyaa qof iska dhigaya nin rabshad badan oo Taehae dhibaya si uu ugu muuqdo geesi badbaadinaya gabadh qurux badan. Sehyun ma uusan ogeyn in Taehae ay tahay gabar aad u xoog badan, keliya ma aysan iska difaacin ninkii loo soo kiraystay inuu dhibo, balse sidoo kale waxay isla markiiba ogaatay qorshaha Sehyun oo bannaanka soo dhigtay khiyaamadiisa. Markii uu arkay in dhammaan qorshayaashiisii fashilmeen, Sehyun wuxuu go'aansaday inuu si daacadnimo leh ugu dhowaado Taehae. Wuxuu xasuusiyey sheekadii diyaaradda warqadda ee ay isku barteen baska, taas oo ugu dambayn ka dhigtay Taehae inay aqoonsato. Saaxiibadii waxay sii wadeen inay hindisaan xeelado cusub si Sehyun ugu ekaado inuu si kama ah ula kulmayo Taehae maktabadda. Inkastoo Taehae markii hore iska indho tirtay, adkaysiga Sehyun iyo daryeelkiisa yaryar intii lagu jiray cuntada ayaa si tartiib ah qalbigeeda u jilciyey. Si kastaba ha ahaatee weli waxay uga digtay inuusan ku ciyaarin dareenka dadka. Dhanka kale Suji waxay iyaduna bilowday qorshaheeda ay kaga aargoosanayso Kyung iyadoo isku dayaysa inay u dhawaato gabadha uu guursan doono. Sidoo kale Seju waxaa lagu qasbay inuu noqdo hisad si uu ugu dhawaado Kyungju una soo ururiyo xog dheeraad ah oo ku saabsan Taehae si uu u dedejiyo qorshaha uu ku kasbanayo qalbiga Taehae. Sehyun wuxuu go'aansaday inuu iska diiwaangeliyo shaqo mutadawacnimo oo lagu qabanayo guri daryeelka dadka waayeelka ah, halkaas oo Taehae sidoo kale ka shaqayn doonto. Dhammaadka usbuuca maalintii la ballamay, Sehyun wuxuu si sax ah uga soo muuqday Taehae horteeda. Wuu u dhoola caddeeyey wuxuuna ku ammaanay timaheeda cusub inuu aad ugu qurux badan yihiin. Sidoo kale sidii caadadiisu ahayd, meel iyo waqti kasta ayuu uga faa'iidaysanayay inuu qirto jacaylkiisa, taas oo qalbiga Taehae ka dhigtay inuu si degdeg ah u garaacmo. Markii ay gaareen guriga dadka waayeelka ah, Taehae si diiran ayaa loo soo dhaweeyey. hooyooyin waayeel ah ayaa hareeraheeda isugu yimid iyagoo farxad ku ciyaaraya qoobka ciyaar. Dhanka kale Sehyun nasiib uma yeelan soo dhaweyn noocaas ah. Waxaa loo diray bannaanka si uu sagxadaha u nadiifiyo una xiro kaabashyo culus. Markii uu daalay wuxuu wacay Suji si uu uga cabto shaqada adag, laakiin Suji si kulul ayay taleefanka ugu damisay. intii uu shaqaynayay Sehyun wuxuu la kulmay haweeney waayeel ah oo qabta xanuunka xusuus lumiska. haweeneydu waxay u qaadatay Sehyun inuu yahay ninkeedii geeriyooday. waxay gacanta ka qabatay iyadoo ka codsanaysa inuu u sawiro ubaxyo forsity ah. Sehyun wuxuu sameeyey sidii ay codsatay. wuxuu u sawiray ubax qurux badan wuxuuna iska dhigay ninkeedii isagoo gacanteeda si diiran u haya. haweeneydii aad bay ugu faraxday markay Taehae aragtay sida Sehyun ula dhaqmay dadka waayeelka ah. aragtideedii ku saabsanayd isaga si weyn ayay isu beddeshay. ka hor intaysan bixin, maamulaha xaruntu wuxuu Sehyun iyo Taehae guddoonsiiyey sanduuq kimchi ah si uu ugu mahadceliyo shaqadii adag ee ay qabteen maalintaas. markii ay baskii guriga ku noqonayeen, Sehyun aad buu u daalay wuxuuna ku dhacay hurdo qoto dheer. Taehae si degan ayay isu dhaqaajisay si uu madaxiisa ugu tiirsado. iyada waqtigaas ayay bilowday inay dareen gaar ah u qaado Sehyun. markii uu guriga gaaray, Sehyun si ula kac ah ayuu u wacay Taehae isagoo weydiinaya sida loo kariyo baasto degdeg ah. Taehae ayaa markaas tallaabo ugu sharaxday habka loo kariyo iyada oo taleefanka kula hadlaysa. muuqaalkaasi wuxuu ahaa mid aad u diiran oo qalbiga taabanaya. dhanka kale Kyungju waxay isu soo diyaarisay si qurux badan waxayna baarka la tagtay Suji iyo Seju, laakiin Seju wuxuu ku mashquulsanaa oo keliya inuu la sheekaysto gabdho qurux
qurux badan oo kale mana uusan dareemin Kyungju haba yaraatee. Iyadoo niyad jabsan Kyungju waxay go'aansatay inay goor hore guriga ku noqoto. Markii ay guriga gaartay waxay Tae uga warantay wixii maalintaas dhacay. Markaas ayay Tae ogaatay in qofka Kyungju jeceshahay uu yahay Seju ee aanu ahayn Sehyun. Markii ay ogaaday in saaxiibteed ugu dhow ay jeceshahay Sehyun, Kyungju waxay ku dhiirigelisay inay si geesinimo leh u raacdo jacaylkeeda. Dhanka kale Suji waxay ku caajistay joogitaanka baarka waxayna qorshaysay inay iyaduna goor hore baxdo. Laakiin si lama filaan ah nin ayaa gacanta ka qabtay oo dib u celiyay. Markii uu arrinta arkay Seju si degdeg ah ayuu u soo orday isagoo aan laba labayn wuxuuna dagaal la galay ninkaas. Labadoodu way iskaraaceen. Sejuna dhaawac ayaa wejiga ka soo gaaray. Suji aad bay uga murugootay. Waxay istiri guriga ayaa lagu garaacaa haddana xitaa marka uu banaanka u soo baxo si uu u madadaasho dhaawac ayaa soo gaara. Laakiin Seju wuxuu iska dhigay inuusan waxba ka qabin. Kadib markii uu Suji taxi saaray oo uu sagootiyey wuxuu keligiis aaday isbitaalka si uu u booqdo hooyadiis. Waxaa markaas soo baxday xaqiiqo murugo leh. Hooyada Seju muddo dheer ayay ku jirtay xaalad miyir beel ah. Seju oo caadi ahaan dadka hortooda uga muuqda qof jees badan oo aan waxba ka welwelin wuxuu markan muujiyey dhinaciisa jilicsan. Wuxuu qirtay in markii uu qofka garaacay maanta uu aad uga baqay inuu mustaqbalka noqdo nin rabshad badan sida aabihiis, inkasta oo uu mar walba qoslo oo si farxad leh ula hadlo dadka. Xaqiiqadu waxay tahay in Seju uu sidoo kale yahay wiil yar oo u baahan jacaylka iyo daryeelka hooyadiis si ay uga yarayso dareenka xun ee carruurteeda ka haysta guurka cusub. Hooyada Suji waxay kala hadashay aabaha Sehyun inay wada yeeshaan casho qoys. Waxay mar walba rabtay inay u dhawaato gabadheeda, laakiin markasta oo ay hadallo kooban isdhaafsadaan Suji waxay bilaabaysaa inay ku jeesjeesto hooyadeed. Dhanka kale Master Sehyun markasta oo uu afka furo wuxuu ka hadlaa shaqada oo keliya mana yaqaan sida dadka loo qalbi qaboojiyo. Waxaa kaloo la ogaaday inuu leeyahay xiriir aan caadi ahayn oo qarsoodi ah oo kala dhexeeya Youngwon hooyada Tae iyagoo mararka qaarkood si qarsoodi ah u baxyo isu dira. Suji ugu dambayn way ogolaatay inay cashada ka qayb gasho, laakiin markii ay gaartay maqaayadda waxay aragtay aabaha Sehyun oo jihada kale u socda isagoo hooyadeed keligeed uga tegay miiska cashada iyadoo dareen yaab leh qabta. Suji waxay si qarsoodi ah u daba gashay Master Sehyun. Waxay ogaatay in uusan u socon cashadii qoyska balse uu aaday inuu la kulmo haweeney kale. Qofka uu dhab ahaantii jecel yahay waxa ay ahayd Youngwon hooyada Tae. Suji waxay si qarsoodi ah uga daawatay dalool yar oo albaabka ku yaalay halkaas oo ay ku aragtay labada qof oo ishabsiinaya. Aad bay uga naxday waxa ay aragtay kadib markii uu la kulmay qofkii uu doonayay inuu arko. Master Sehyun wuxuu ugu dambayn yimid cashadii Suji iyo hooyadeed. Intii cashadu socotay Suji waxay ka codsatay aabaha Sehyun inuusan Sehyun ka saarin guriga uu hadda degan yahay. Waxay sheegtay in gurigaasi ahaa meesha uu Sehyun kula noolaa hooyadiis islamarkaana uu xambaarsan yahay xusuuso qaali ah oo muhiim u ah labadoodaba. Waxay sidoo kale ballan qaaday in haddii uu aqbalo codsigeeda aysan ka hadli doonin sababta uu goobta u yimid saacad kadib waqtigii loo ballamay. Markay hooyadeed maqashay hadalladaas dadban waxay bilowday inay wax ka shakiso. Dhanka kale Sehyun ma uusan ka qayb gelin cashada. Wuxuu u raacay Tae xarunta dadka waayeelka ah si ay mar kale mutadawacnimo uga wada shaqeeyaan iyagoo wada nadiifinaya goobta. Gacmahoodu si kama ah ayay isu taabteen. Sehyun wuxuu weydiiyey Tae haddii ay rabto inay si dhab ah isaga u barato. Tae waxay ugu jawaabtay inay runtii rabto laakiin ay wax yar ka cabsanayso. Markaas Sehyun wuxuu u sheegay inaysan jirin sabab ay dareenkeeda u qarinayso. Waxaana markaas soo baxday in Tae ay saxankii uu maalintii hore u sawiray haweeneydii waayeelka ahayd u beddeshay saxan dhoobo ah oo dhammaystiran. Waxay tustay saxankii waxayna weydiisay ma qurux badan yahay, laakiin Sehyun si macaan ayuu ugu jawaabay ma aha mid ka qurux badan adiga. Markay hadalkaas maqashay Tae si weyn ayay u xishootay. Markii ay guriga ku wada noqonayeen daryeelka Sehyun iyo xiriirka dhow ee u dhexeeyay ayaa Tae ka dhigay aad u walwalsan ilaa wejigeedu guduud noqday. Markii ay guriga gaartay waxay Kyungju uga warantay wixii maalintaas dhacay. Kyungju waxay si cad u aragtay in saaxiibteed ay si dhab ah u jeceshahay Sehyun, sidaas darteed waxay go'aansatay inay si qarsoodi ah fariin ugu dirto Sehyun si ay u ogaato dareenkiisa dhabta ah. Laakiin Suji ayaa si degan uga jawaabtay fariintaas iyadoo sheegtay in Sehyun uusan u muuqan qof dan badan ka leh Tae. Markii Tae ogaatay jawaabtaas aad bay u niyad jabtay. maalin kale saddexdii saaxiib ayaa wada fadhiistay si kama Suji waxay ku fadhiisatay boorsada Sehyun taas oo keentay in saxankii Tae samaysay uu jabo. Markii uu arkay saxankii oo burburay Sehyun si lama filaan ah ayuu u xanaaqay. Suji ma fahmin sababta uu uga caraysan yahay saxan keliya. Waxay ku tiri inay mid cusub u iibin karto, laakiin Sehyun isagoo xanaaqsan ayuu ku jawaabay kan gacanta ayaa lagu sameeyey, lacag laguma iibsan karo. Suji waxay qaaday saxankii jabay waxayna weydiisay cidda samaysay. Markaas Sehyun isagoo walwalsan ayuu si degdeg ah uga dafay gacanteeda. Nasiib darro intii uu ka qaadayay ayuu si kama afarta uga jaray Suji. Tani waxay ahayd markii ugu horeysay ee Sehyun sidan ula dhaqmo. Suji oo aad u xanaaqsan ayaa boorsadeeda qaadatay kana tagtay goobta. Markii uu guriga tagay Sehyun wuxuu isku dayay inuu isku dejiyo jajabkii saxanka, laakiin inkastoo uu dhowr jeer isku dayay haddana wuu ku guuldaraystay. Maalintii xigtay ee mutadawacnimada Sehyun dhowr jeer ayuu isku dayay inuu la hadlo Tae, laakiin iyadu si qabow ayay ula dhaqantay. Kadib markii ay dadka waayeelka ah u qaybiyeen saxamadii la diyaariyey, Sehyun ugu dambayn wuxuu go'aansaday inuu runta u sheego Tae. Markay maqashay xaqiiqada aad bay u xanaaqday. Waxay weydiisay sababta uusan hore ugu sheegin. Kadib waxay si cad ugu sheegtay inuusan mar dambe imaan xarunta dadka waayeelka ah. Sehyun ayaa dib u weydiiyey taasi ma fikirkaaga gaarka ah baa mise waa waxa dadka kale ku sheegeen? Labadoodii waxay ku kala tageen jawi aad u xun. Sehyun isagoo murugaysan ayuu gurigiisii ku noqday. Markii uu baasto karinayay wuxuu si joogto ah uga fikirayay Tae, xitaa markuu arkay kimkiga ku jira qaboojiye
qaboojiyaha waxay xusuusisay iyada isaga oo aan dareensanayn wuxuu sawir yar oo Taehe ah ku sawiray albaabka muraayada ah. Waqtigaas ayuu ogaaday in si tartiib ah uu dhab ahaan u bilaabay inuu daneeyo Taehe. Dhanka kale markii Taehe mar kale tagtay xarunta dadka waayeelka ah, maamulaha xaruntu wuxuu tusay sawir Sehyun iyo hooyadiis. waxaa la ogaaday in hooyada Sehyun ay sidoo kale halkaas mutadawacnimo ka samayn jirtay ka hor geerideeda. Maamuluhu wuxuu sheegay inuu qorsheynayay inuu sawirka tuso Sehyun marka uu mar kale yimaado Taehe iyadoo murugaysan ayay tiri. waxaan u malaynayaa inuusan mar dambe iman doonin. laakiin maamuluhu isagoo yaaban ayuu ku jawaabay Sehyun shalay ayuu halkan joogay. markaas ayay Taehe si weyn ula yaabtay. waxay ogaatay in Sehyun shalay si gaar ah u yimid si uu gacantiisa ugu sameeyo saxan cusub oo bedel u noqda kii jabay. markii saddexdii saaxiib mar kale kulmeen, Sehyun wuxuu sheegay inuu doonayo inuu ka tanaasulo qorshihii uu ku kasban lahaa qalbiga Taehe. laakiin Suji ayaa ku tiri ka hor intaadan oran waan quustay, waa inaad marka hore samaysaa dadaalkaaga ugu dambeeya. Sehyun mar kale ayuu aqbalay codsigeeda. habeenkaas hooyada Suji waxay doonaysay inay casho la yeelato aabbaha Sehyun, laakiin Master Seokgun uu diiday codsigii cashada isagoo sheegay inuu shaqo badan ku mashquulsan yahay. laakiin dhab ahaantii wuxuu ballan jacayl la lahaa Youngwon oo ahayd jacaylkiisii ugu horreeyey. labadoodu waxay wada fadhiisteen iyagoo ka sheekaysanaya waayihii hore. Youngwon waxay aaminsanayd in xiriirkoodii hore uusan lahayn mustaqbal dambe, waxayna rajaynaysay inuu iska iloobo wixii dhacay oo uu noloshiisa sii wato. dhanka kale hooyada Suji si fiican ayay u ogeyd inuusan Master Seokgun jeclayn, islamarkaana guurkooda uu ahaa heshiis ganacsi oo keliya. iyadoo niyad jabsan ayay cabtay khamri badan ilaa ay miyir beeshay, waxaana gurigeeda geeyey xoghaye Don oo ka tirsan Jik Group. maalintii Taehe u guuraysay qolkeeda cusub ee hoyga ardayda, Sehyun si lama filaan ah ayuu u dareemay walwal. markaas ayuu u cararay si uu u caawiyo labadoodu. waxay wada qaadeen alaabtii iyagoo u sii socda hoyga ay bixisay Myung-Jung Group. laakiin markii ay gaareen halkaas waxaa loo sheegay in qof hore usoo wacay oo kansalay qolkii Taehe. meel ay degto ma lahayn. iyadoo murugaysan ayay dhulka fadhiisatay. kii uu arkay xaaladeeda Sehyun aad ayuu uga xumaaday. islamarkiiba ayuu gacanta qabtay gaariga saaray, wuxuuna go'aansaday inuu geeyo gurigiisa. laakiin markii uu gaariga soo dhigay dhismaha hortiisa, booliis ayaa yimid oo xiray isaga iyagoo ku eedeeyey inuu xaday gaari. Taehe ma fahmi karin sababta ay sidaas ugu walwalsan tahay Sehyun isagoo dhoola cadaynaya ayuu ku yidhi marka hore guriga tag oo isug furaha sirta ah ee albaabka waa lambarka taleefankaaga. Taehe waxay gashay guriga. gudaha waxay ku aragtay sawirkii uu Sehyun ka sameeyey iyada oo ku yaalay albaabka muraayada ah. waxay sidoo kale aragtay saxankii asalka ahaa ee uu ugu talagalay inuu hadiyad ahaan u siiyo haweenaydii waayeelka ahayd. markay waxyaabahaas aragtay aad bay u taabatay. dhanka kale saldhigga booliiska, Sehyun wuxuu sharaxay in gaarigu uu ahaa kii hooyadiis lahayd tan iyo markii hooyadiis geeriyootay. isaga ayaa mar walba waday gaarigaas, laakiin si lama filaan ah sarkaalka booliisku wuxuu sheegay in qofka dacwada gudbiyey uu ahaa Master Seokgun laftiisa. isla waqtigaas Taehe ayaa iyadoo walwalsan gudaha usoo carartay. maadaama ay si fiican u taqaan sharciga, waxay booliiska u sharaxday xeerarka dhaxalka ee khuseeya gaariga. booliisku waxay kula taliyeen Sehyun inuu guriga tago oo arrintan si cad ugala hadlo aabihiis. waxay sidoo kale sheegeen in gaariga uusan lahayn wax diiwaangelin ah oo muujinaysa inuu weligiis galay shil. arrintaas waxay Sehyun gelisay shaki weyn. hooyadiis waxay ku geeriyootay shil gaari. haddaba haddii aysan jirin wax diiwaan ah oo shilkaas ku saabsan, maxaa dhacay? ma suuragal baa inay jirto sir qarsoon oo ka dambaysa geerida hooyadiis? intii uu arrintaas ka fikirayay, la taliyaha sharciga ee Jik Group ayaa goobta yimid, wuxuuna u sheegay Sehyun inuu inta kale isagu maamuli doono. kadibna Sehyun waa la sii daayey. markii ay bannaanka uga soo baxeen saldhigga booliiska, Taehe waxay ku istaagtay suulasha lugaheeda si ay maro qoorta lagu xirto ugu xirto Sehyun. xilligaas qalbiga Sehyun waxaa ka buursamay farxad iyo diiran. kadib waxay wada aadeen dukaan yar oo habeen iyo maalin furan. markii Taehe xasuusatay sawirka uu ka sameeyey ee ku dheganaa albaabka muraayada ah, waxay si buuxda u hubsatay in Sehyun isaguna jeclaa. sidaas darteed si toos ah ayay ugu qiratay jacaylkeeda. kadibna labadoodu waxay wadaageen dhunkasho macaan oo jacayl ah. markii ay guriga kusoo laabanayeen, Taehe qalbigeeda waxay si qarsoodi ah uga rajaynaysay in rabitaankeedii dhalashada uu rumoobo, kaas oo ahaa inay la joogto qofka ay jeceshahay. maadaama Taehe aysan lahayn meel kale oo ay degto, Sehyun wuxuu geeyey guri dabaq ah oo ku yaalay dhinaca kasoo horjeeda gurigiisa. run ahaantii Sehyun ayaa lahaa dhismahaas, laakiin wuxuu ka baqay in haddii Taehe ogaato ay dareemi doonto culays ama dayn. sidaas darteed sir ayuu ka dhigtay. markii dambe Suji ayaa wacday Sehyun si ay ugu casuunto cunto, laakiin Sehyun wuxuu ka walwalsanaa in Taehe ay keli ku daali doonto guuritaanka. sidaas darteed wuu diiday casuumada. arrintaas waxay Suji ka dhigtay mid aad u niyad jabtay. Sehyun wuxuu sii waday inuu ka caawiyo Taehe dejinta alaabteeda cusub. maalin ayuu arkay iyadoo isku dayaysa inay beddesho nal koronto. Taehe waxay siisay tilmaamo, isaga ayaana u keenay qalabkii ay u baahnayd. markii shaqadii dhammaatay, Taehe waxay ka qaadatay koob casiir liin ah oo Sehyun watay. dabadeedna si weyn ayay uga cabtay markii uu arkay bushimaheeda casaanka ah ee soo jiidashada leh. Sehyun si aan ula kac ahayn ayuu candhuuftiisa u liqay, isagoo isku dayaya inuu qariyo dareenkiisa. si degdeg ah ayuu cajalad ugu dhejiyey afkeeda. falkan ayaa Taehe gebi ahaanba wareeriyey. waxay mooday inay si qalad ah uga cabtay cabitaankiisa. sidaas darteed way xishootay. intii ay jaranjarada dhaqaajinayeen, Sehyun si kama ah ayuu gidaarka u wasakheeyey. markii Taehe aragtay qaylo ayay la soo booday, iyadoo ka baqaysa in lagu soo dalaco kharashka dayactirka. dhibaatadu waxay ahayd inaysan hadda haysan lacag badan. Sehyun markii uu arkay sida ay uga falcelisay wuu argagaxay, wuxuuna si degdeg ah qalabkiisii ula noqday gurigiisa. kadib markii uu baxay, Taehe waxay bilowday inay ka shalayso sida ay arrinta uga badbadisay. tan iyo markii Taehe
taehee usoo guurtay xaafadda Sehyun marar badan kama soo qaybgelin kulamadii saddexda saaxiib qalbigiisa hadda wuxuu ku mashquulsanaa taehee oo keliya mararka qaarkood wuxuu u iibin jiray waxyaabaha maalinlaha ee ay u baahan tahay dabadeedna si qarsoodi ah ayuu albaabkeeda hortiisa ugu reebi jiray daryeelkaas yaryar ee diiran ayaa si tartiib ah u dhalaaliyey qalbigii kulul ee taehee dhankeeda taehee iyaduna waxay bilowday inay si gaar ah ugu fiirsato muuqaalkeeda waxay si taxadar leh isu qurxin jirtay ka hor intaysan bannaanka u bixin laakiin indhaha Sehyun taehee mar walba way qurux badnayd iyadoon loo eegin inay isqurxisay iyo in kale dhanka kale hooyada Suji waxay isku dayeysay inay barato aqoon kasta oo ka caawin karta inay si dhaqso leh ula qabsato shaqada group mar kasta oo ay la cunteynaysay Master Seojon waxay si taxadar leh u qoran jirtay qoraallo iyo xusuusin waxay doonaysay inay ninkeeda ula dhaqanto sidii xaas dhab ah laakiin ninku guurkaas wuxuu u arkayay heshiis ganacsi oo keliya wejigiisa wax farxad ah lagama arki jirin toddobaad kasta way kulmi jireen hooyada Sujina si farxad leh ayay uga sheekayn jirtay waxyaabaha ay mustaqbalka wada samayn doonaan Master Seojon isagu kaliya madaxa ayuu ruuxi jiray isagoo ogolaanaya laakiin ma muujin jirin wax dareen ah markii semesterka cusub bilaabmay caruurtii hadda waxay noqdeen arday jaamacadeed maalin ka mid ah maalmaha jaamacadda Suji waxay aragtay taehee iyo Kyungju isla markiiba waxay wacday Sehyun waxayna ku tiri inuu si degdeg ah u yimaado isagoo u muuqda nin qurux badan oo soo jiidasho leh Suji waxay si gaar ah ugu casuuntay Kyungju bandhig fashion ah oo habeenkaas dhacayay kadib waxay u jeesatay taehee iyadoo ku leh waxaan haystaa hal tigidh oo keliya oo taehee iyadoo xishoonaysa ayay ku jawaabtay inay dhib lahayn isla waqtigaas Sehyun ayaa goobta yimid markii uu gaariga ka degay wuxuu si dabiici ah uga qaaday Suji qalabkeedii eloga wuxuuna geliyey kursiga dambe ee gaariga laakiin taehee si kulul ayuu ula dhaqmay taehee waxay dareentay in la iska fogeeyey sidaas darteed keligeed ayay iska tagtay intii ay gaariga saarnaayeen Kyungju waxay uga mahadcelisay Sehyun sidii uu uga caawiyey taehee guuritaankeedii markaas ayay Suji ogaatay in Sehyun uu diiday casuumadeedii hore sababtoo ah gabar kale arrintaasi aad bay uga xumaatay fiidkii Suji waxay mar kale Kyungju ku casuuntay safar ay qorsheynaysay Kyungju oo doonaysay inay Seju u dhawaato si farxad leh ayay u aqbashay waxay sidoo kale sheegtay inay taeheeso kaxayn doonto dhanka kale taehee waxay aragtay sawir ay wada galeen Suji iyo Sehyun markay aragtay ninkii ay jeclayd oo si dhow ula jooga gabar kale qalbigeeda murugo iyo masayr ayaa buuxiyey kadib markii uu Suji geeyey bandhiga fashiyonka Sehyun wuxuu dareemay dembiga uu uga tagay taehee sidaas darteed wuxuu ku casuumay casho markii ay wada fadhiisteen taehee waxay ogaatay in Sehyun dhab ahaantii yahay mulkiilaha guriga ay degan tahay waxay isla markiiba soo saartay heshiiskii kirada waxayna ka codsatay inuu saxiixo waxay sidoo kale u sheegtay inay la xiriirtay Myung Jin Group oo ay dhowaan dib ugu laaban doonto hoyga ardayda Sehyun wuxuu ka codsaday inay arrintaas ka hadlaan kadib cashada intii ay cuntada cunayeen taehee way xanaaqday markii Sehyun uu maraq ku shubay hilibkii macaanaa ee la shiilay waxay dareentay inuusan haba yaraatee ka fikirin waxa ay iyadu jeceshahay iyadoo xanaaqsan way joojisay cuntadii waxayna go'aansatay inay qaadato qalabkii uu Sehyun hore uga amaahday kadibna guriga ku noqoto laakiin nasiib darro Sehyun wuxuu qalabkaas iyo alaabtiisa gaarka ah ku hayay hal meel markii taehee furtay qaanada waxay aragtay dhowr shay oo gaar ah labadooduba aad bay uga xishoodeen xaaladaas lama filaanka ah dhanka kale kadib bandhigii fashiyonka Seju wuxuu Kyungju geeyey gurigeeda Kyungju waxay uga warantay qorshaha safarka ee Suji kadib si diiran ayay ugu casuuntay Seju inay filim wada daawadaan laakiin Seju ma doonayn inuu si aad ah ugu dhawaado Kyungju sidaas darteed wuxuu raadiyey hab uu uga baxsado qorshahaas wuxuuna ka codsaday gabadhii guriga ka shaqaynaysay inay caawiso gabadhii shaqaalaha ahayd waxay si ula kac ah u kharibtay cuntadii uu Kyungju ugu jeclaa si ay calool xanuun ugu dhacdo oo aysan safarka uga qaybgelin laakiin si lama filaan ah Kyungju si ay muuqaal wanaagsan ugu yeelato Seju hortiisa way diiday inay cunto wax dheeraad ah natiijadii cuntadii kharibnayd waxaa cunay hooyadeed markii dambe Suji waxay Sehyun uga warantay qorshaha safarka Sehyun wuxuu sheegay inuu doonayo oo keliya inuu safarka la aado Suji iyo Seju markaas Suji ayaa si toos ah u weydiisay ma waxaad bilowday inaad taehee jeclaato dareenka haweenaydu aad ayuu u xoog badnaa Suji waxay dareentay in Sehyun dhab ahaantii qalbigiisa u dhacay taehee fikirkaas ayaa ka dhigay mid aan ammaan dareemin dhanka kale Seju wuxuu doonayay in taehee safarka ku soo biirto wuxuu u muuqday mid ku faraxsan in Sehyun ugu dambeyn dareen dhab ah u qaaday qof markii usbuuca dhammaadkiisii yimid hooyada Suji si qurux badan ayay isu diyaarisay isna u qurxisay iyadoo filaysay inay la kulanto aabaha Sehyun laakiin Master Seoyok halkii uu iyada la kulmi lahaa wuxuu aaday inuu la kulmo jacaylkiisii hore hooyada Suji waxay guriga ku sugaysay subax dhan iyadoo rajaynaysa nasiib darro xitaa telefoon kama soo wicin dhanka kale hooyada Kyungju waxay xanuunsatay kadib markii ay cuntadii xumayd cuntay sidaas darteed Kyungju waxay ku qasbanaatay inay guriga joogto si ay u daryeesho waxay wacday taehee waxayna ku tiri inay iyadu marka hore safarka aado taehee waxay ku jawaabtay haddii saaxiibtay aysan baxayn aniguna ma baxaayo laakiin Kyungju waxay ku qancisay iyadoo sheegtay inay habeenkaas filim la daawanayso Seju sidaas darteed ay dib uga soo daahi doonto taehee ma aysan awoodin inay diido codsiga saaxiibteed sidaas darteed inkastoo cagteedu dhaawac ka soo gaadhay shaqadii subaxdaas haddana waxay keligeed u baxday safarka Kyungju waxay markaas wacday Sehyun waxayna ka codsatay inuu taehee ka soo qaado saldhigga Sehyun si toos ah ayuu gaarigiisa ugu aaday saldhigga markii uu taehee la kulmay wuxuu si daacad ah uga raali geliyey inuu ka qariyey xaqiiqda ah inuu yahay mulkiilaha guriga ay degan tahay labadoodii ugu dambeyn way heshiiyeen waxayna xaliyeen dhammaan khilaafaadkii u dhexeeyey waxay noqdeen dadkii ugu horeeyey ee gaara gurigii dalxiiska ee loo qorsheeyey safarka markay arkeen qolalka oo qasan waxay bilaabeen inay wada nadiifiyaan Sehyun xitaa wuxuu taehee u kariyey cunto si lama filaan ah isla waqtigaas ayay Suji iyo Seju yimaadeen markay arkeen Sehyun iyo taehee oo si dhow isula dhaqmaya Suji wax yar ayay masayftay waxay marmarsiinyo ka dhigatay arrin kale si ay taehee uga kaxayso Sehyun intii cashada ugu jiray Suji waxay si joogto ah uga sheekaynaysay xiriirka adag ee ka dhexeeya iyada Sehyun iyo Seju waxay ku celcelisay in saaxiibtinimadoodu tahay
sida gidaar bir ah oo aan cidina jebin karin. kadib waxay si ula kac ah u sheegtay in Sehyun mar hore Seju kula tartami jiray soo jiidashada gabdho qurux badan iyagoo ku heshiin jiray in qofkii gabadha ugu horeeya kasbada uu guulaysto. markay Taehae maqashay hadalladaas wejigeedu si tartiib ah ayuu isu bedelay. jawigu wuxuu noqday mid culus. si ay xaaladda u dejiso Taehae waxay mawduuca u rogtay dhanka kale. waxay sheegtay in Sehyun aad u jecel yahay sawirida islamarkaana dadka waayeelka ah ee xarunta daryeelka ay aad u jeclaayeen sawiradiisa. Suji ayaa qososhay iyadoo leh Sehyun sawirida uu neceb yahay. Sehyun laftiisuna wuu xaqiijiyey hadalkaas. markii uu sidaas yiri jawigii miiska cashada wuxuu noqday mid kulul oo aan raaxo lahayn. Taehae waxay dareentay niyad jab weyn. waxay samaysatay marmarsiinyo kadibna si degdeg ah uga baxday cashada kadib. Seju wuxuu Suji weydiiyey sababta ay sidaas u samaysay iyadoo qof walba uu ogaa in qorshahoodu ahaa inay Sehyun iyo Taehae isku soo dhaweeyaan. laakiin xitaa Suji kudheedu ma hubin. waxay isweydiinaysay in Sehyun dhab ahaantii doonayo inuu sii wado ciyaartan mise uu iska dhigayo oo keliya si uu iyaga uga qanciyo. Taehae waxay aaday barkada dabaasha ee villada si kadis ah ayay halkaas ugu kulmeen Sehyun wuxuu uga cudur daartay wixii cashada ka dhacay. wuxuu sheegay inuusan xitaa hubin inuu sawirida jecel yahay iyo in kale. Taehae ayaa markaas weydiisay maxaad mar walba iskaga dhigtaa qof xun. waxay u sheegtay in mar kasta oo uu la joogo Suji iyo Seju uu u muuqdo nin ciyaal suuq ah oo aan wax mas'uuliyad ah lahayn. laakiin dhab ahaantii uu leeyahay hibooyin badan oo wanaagsan islamarkaana awood u leeyahay inuu dadka farxad iyo diiran siiyo. bisaylka iyo naxariista Taehae ayaa si tartiib ah u bedelayay Sehyun. kadib markii Sehyun meesha ka baxay Suji ayaa barkada timid si ay ula hadasho Taehae. waxay si toos ah ugu sheegtay inay iyadu jeceshahay Sehyun. waxay kaloo sheegtay in Sehyun isaguna iyada jecel yahay. Suji waxay ku dooday in xiriirka Sehyun iyo Taehae uu yahay isku day uu Sehyun kula qabsanayo xaaladda cusub ee ah in Suji ay noqotay walaashiis dhinaca qoyska. markay hadalladaas maqashay Taehae aad ayay uga xumaatay. daqiiqad kadib waxay aragtay Sehyun oo si dhow ula jooga Suji xitaa gacmaheeda cadaadis uga saaraya si uu u dejiyo. muuqaalkaas ayaa qalbigeeda sii dhaawacay. iyadoo murugaysan ayay qolka ku noqotay. subaxdii xigtay Taehae keligeed ayay dib ugu laabatay Seoul. markii Sehyun hurdada ka toosay oo ogaaday inay tagtay aad ayuu uga walwalay. islamarkiiba ayuu ka daba baxay maadaama Taehae cagteedu dhaawacnayd meel fog ma aysan gaari karin. Sehyun ayaa ugu dambayn helay. wuxuu dhabarka u saaray si uu u qaado Taehae. waxay fursadaas uga faa'iidaysatay inay sawir wadajir ah ka qaado. markay aragtay sida uu uga walwalayo qalbigeeda waxaa ka buuxsamay farxad iyo jacayl. iyagoo gacmaha ishaysta ayay dib ugu laabteen Seoul. markii ay guriga gaareen Sehyun wuxuu u diyaariyey miis buuxa oo cunto macaan ah. guriga waxaa ka buuxay qosol iyo farxad. dhanka kale hooyada Suji waxay booqatay xarunta dadka waayeelka ah iyadoo matalaysa hay'ad samafal. waxay dadka degan u iibisay agab badan oo ay maalin kasta u baahan yihiin. intii ay halkaas joogtay waxay si lama filaan ah u aragtay sawirka hooyada Sehyun oo hore deeqo ugu bixin jirtay xarunta. sawirkaas markay aragtay waxay dib u xasuusatay maalin ay aragtay gaariga hooyada Sehyun. waxay xasuusatay inay si quus ah albaabka gaariga u garaacaysay. waxay u muuqatay in hooyada Suji ay iyaduna qarinayso sir weyn. maalin kale intii ay casho la cuntaynaysay aabbaha Sehyun waxay ka hadashay fikradda ah in Suji loo diro dibadda si ay wax uga barato. waxay sidoo kale isku dayday inay wax badan ka ogaato noloshiisa gaarka ah. laakiin Sehyun si kulul ayuu ugu jawaabay waa inaanan iloobin sababta aan isu guursanay. guurkani waa heshiis ganacsi oo keliya. markay hadalkaas maqashay hooyada Suji si weyn ayay u niyad jabtay. dhanka kale Suji iyo Seju iyaguna waxay ku soo laabteen Seoul. markii ay gaareen albaabka guriga Suji koox wax madow xirnaa ayaa si lama filaan ah u afduubtay Seju. Suji oo argagaxsan ayaa isla markiiba wacday Sehyun si ay ugu sheegto wixii dhacay. markii Sehyun warka helay wuxuu ka tegay Taehae iyagoo cuntaynaya wuxuuna u baxay si degdeg. laakiin markii dambe waxaa la ogaaday inaysan ahayn afduub dhab ah. waxay ahayd maalinta xuska qoyska Seju. qoyskiisu waxay soo direen dad si ay guriga ugu soo celiyaan maadaama uu bannaanka ku maqnaa. sababtoo ah wuxuu si qarsoodi ah uga baxay guriga. awowgiis ayaa si adag u garaacay wejigiisa. waxaa ka muuqday nabarro iyo barar. kadib markii ay cuntadii dhammaatay Taehae dibadda ayay u baxday. halkaas ayay si kadis ah kula kulantay Kyungju aad ayay ula yaabtay markay ogaatay in Taehae ay sidaas ugu dhowdahay guriga Sehyun. Taehae waxay markaas bilowday inay saaxiibteed uga cabato Sehyun. waxay sheegtay inuu mar walba daryeelo Suji isagoo aan dareemin dareenkeeda. waxayse garan weyday in Sehyun meel u dhow joogo oo uu si qarsoodi ah u maqlayo hadalkeeda. markii uu maqlay cabashadeeda wuxuu fursadda uga faa'iidaystay inuu ku casuumo casho maalinta xigta. subaxdii dambe Sehyun wuxuu yimid guriga Taehae. Kyungju ayaa albaabka furtay waxayna u sheegtay in Taehae shaqo aaday. waxay sidoo kale uga warantay wixii barkada dabaasha ka dhacay ee u dhexeeyey Suji iyo Taehae. Sehyun wuxuu damcay inuu isla markiiba raadiyo Taehae laakiin ka hor intuusan bixin wuxuu helay telefoon ka yimid booliiska. horey ayuu booliiska uga codsaday inay dib u baaraan shilkii gaariga ee sababay geerida hooyadiis. waxay u muuqatay in baaritaankaasi ugu dambayn keenay xog cusub oo muhiim ah. booliisku waxay u sheegeen Sehyun in maalintaas ay diiwaanka ku jirtay oo keliya gabadh dugsi sare dhigata oo samaysay shil gaari kadibna baxsatay balse aan wax diiwaan ah laga haynin hooyadiis. Sehyun ayaa mar kale shaki galay isagoo isweydiinaya in geerida hooyadiis ay ka dambaysay arrin kale oo qarsoon maqaayadda qaxwada ee Taehae ka shaqayso. Sehyun wuxuu kula kulmay Kyung oo isaguna raadinayay Taehae. Kyung wuxuu u arkay inay tahay wax laga xumaado in Taehae ay u shaqayso sidii adeegto maqaayad. wuxuuna ku casuumay inay ka shaqayso xafiiskiisa qareennimada. markii Sehyun arkay Taehae oo si farxad leh ula sheekaysanaysa Kyung masayr ayaa galay. wuxuuna dhinaca ka bilaabay inuu ku jeesjeeso. Kyung ayaa weydiiyey waxa uu xiriirkoodu yahay. Taehae oo xanaaqsan ayaana si aan caddayn uga jawaabtay inuu yahay oo keliya saaxiibkeed ah. qof ay si kadis ah ula kulantay haweenaydii waayeelka ahayd ee xasuus beelka qabtay ee joogtay guriga daryeelka ayaa
ayaa u xiistay Seohyun waxayna si qarsoodi ah ugu soo wacday telefoon sidaas darteed Seohyun wuxuu aaday inuu booqdo dhammaan dadka ku nool gurigaas wadaadkii ayaa weydiiyey sababta tahay aysan ula iman dadkii oo dhan waxay u maleeyeen inay iskhilaafeen sidaas darteed waxay soo saareen lacagtoodii yareyd ee jeebabka ku jirtay waxayna siiyeen Seohyun iyagoo ku leh inuu tahay cunto ku casuumo markii uu arkay sida ay dadkaasi u daryeelayaan Seohyun aad ayuu u taabtay dareen ahaan intii uu guriga ku sii socday wuxuu arkay tahay oo geed fuushan si ay caruurta uga caawiso inay soo dejiyaan kubad ku dhigtay isagoo ka walwalsan Seohyun si degdeg ah ayuu ugu cararay inuu caawiyo tahay ayaa si lama filaan ah imbiriir xatay waxayna ku dhacday gacmaha Seohyun intaas kadib waxay si wada jir ah ugu soo noqdeen guriga Seohyun ayaa mar kale u kariyay cunto macaan tahay ayaa si kadis ah u heshay sawiradii uu Seohyun sawiri jiray waxayna mid u daalacatay iyadoo xiisaynaysa ugu dambeyn waxay aragtay sawirkii Suji markaas ayay mar kale masayrtay isla waqtigaas aabaheed ayaa soo wacay si uu u arko wejiga gabadhiisa tahay waxay ku qasbanaatay inay qolkeeda ku noqoto wicitaankii muuqaalka ahaa dhexdiisa tahay waxay si farxad leh ugu soo bandhigtay aabaheed gurigeeda cusub iyadoo u sheegtay inuusan ka walwalin aabaheed wuxuu sheegay inuu internetka ku arkay xog ku saabsan hooyadeed oo dib u furaysa bandhigeedii farshaxanka dhoobada wuxuuna sheegay inuu u diri doono qaxwadii ay hooyadeed jeclayd si tahay ugu geyso tahay ayaa si caro leh u weydiisay sababta uu weli u ilaawi waayay hooyadeed waxay tiri markii hore hooyadeed ayaa isaga u adeegsatay inay ku ilowdo jacayl hore balse ugu dambeyn isaga ayaa noqday qofka aan awoodin inuu iloobo intii ay aabaheed su'aalaynaysay tahay waxay ka fikirtay nafteeda iyadoo isweydiinaysa sababta ay u sugayso qof aan iyada jeclayn sida aabaheed oo kale markaas ayay si qarsoodi ah go'aan uga gaartay inaysan weligeed ku noolaan doonin nolol xanuun badan oo lamid ah tan aabaheed Seohyun ayaa ogaaday in tahay ay aragtay sawirka Suji wuxuuna aaday albaabka qolkeeda si uu wax ugu sharaxo laakiin tahay waxay u sheegtay inay rajaynayso in xiriirkoodu halkaas ku ekaado Seohyun oo jahwareersan ayaa weydiiyey sababta isagoo isleh bal Suji ma wax bay ku tiri tahay waxay sheegtay in go'aankeedu uusan wax xiriir ah la lahayn cid kale waxay ahayd arrin u dhaxaysa iyada iyo Seohyun oo kaliya inkasta oo ay erayo adag ku hadashay haddana isla markii ay dhabarka jeedisay ayay ilmeynaysay Seohyun ayaa kaligiis u aaday baar si uu khamri u cabo dhanka kale xiriirka Suji iyo Hejung si wanaagsan ayuu u socday marar badan ayay wada sheekaysan jireen Hejungana si joogto ah ayay uga sheekaynaysay nin ay jacayl u qaaday markii ugu horeysay ee ay aragtay Suji way ka daashay hadalladaas sidaas darteed waxay wacday Seju waqtigaas Seju wuxuu ku nasanayay sariirta fadhiga haddii gabdho kale soo wacaan dan kama gelin laakiin markii uu arkay in Suji tahay qofka soo wacaya isla markiiba ayuu ka jawaabay markii uu gaaray goobtii lagu ballamay Seju markii hore uu wareeray laakiin markii uu yara fikiray ayuu fahmay xaaladda nasiib wanaag Seju wuxuu yaqaanay Dohun ninka ay Hejung ka heshay Hejung ayaa ka codsatay inuu ka caawiyo la xiriirida Dohun waxaa soo baxday in Dohun uu yahay nin baarka ka shaqeeya isla goobta uu Seohyun ku sakhraansanaa kadib markii uu helay wicitaankii Dohun wuxuu u sheegay in Seohyun si aad ah u sakhraansan yahay Suji iyo Seju ayaa si degdeg ah ugu cararay baarka Seohyun oo maskaxdiisu wareersan tahay ayaa Suji weydiiyey inay wax ku tiri tahay Suji si daacad ah ayay u qiratay inay tahay u sheegtay inay iyada iyo Seohyun ishukaansanayaan kadib waxay dib ugu weydiisay Seohyun haddii ay wax khaldan sheegtay Seohyun ayaa qosol qasab ah la yimid isagoo leh shaqo fiican ayaad qabatay Suji aad ayay uga xumaatay sababtoo ah Seohyun mar walba wuxuu si gaar ah uga fikiraa tahay sidaas darteed iyadoo xanaaqsan ayay ka baxday baarka Seju ayaa daba orday wuxuuna weydiiyey waxa ay dhab ahaantii rabtay inay Seohyun ka xaqiijiso markii Seju si toos ah u weydiiyey waxa ay damacsan tahay Suji wax jawaab ah ma bixin halkii ay hadli lahayd waxay si lama filaan ah uga dhunkatay bushimaha saddexda saaxiib dhexdooda Seju mar walba wuxuu iska dhigaa nin gabdhaha badan la sheekaysta oo aan xiriir dhab ah dan ka lahayn sidaas darteed cidina si dhab ah uma qaadato dareenkiisa laakiin xaqiiqadu waxay tahay in Seju uu muddo dheer si qarsoodi ah u jeclaa Suji dhanka kale Seohyun ayaa ku miyir beelay baarka waxaana loo qaaday isbitaalka Myungchung markii uu soo toosay wuxuu isku arkay isla qolka ay hooyadiis hore ugu jirtay markii uu xusuustay waqtiyadii uu la qaatay hooyadiis aad ayuu ugu say wuxuu la kulmay hooyada Suji oo ahayd dhakhtarkii hooyadiis wuxuuna weydiiyey haddii ay wax ka og tahay faahfaahinta shilkii gaariga wax walba waxay muujinayeen in hooyadiis ay gashay shil laakiin wax diiwaan ah lama helin saldhigga booliiska waxaa ku jiray oo keliya warbixin ku saabsan shil gaari oo baxsad ah oo dhacay isla maalintaas qofkii dhibanaha ahaa wuxuu ahaa gabar dhigata dugsiga sare ugu dambeyn hooyada Suji ayaa sheegtay runta waxay sheegtay in qofkii sababay shilkaas baxsadka ahaa markii hore ay ahayd hooyada Seohyun kadib markii arrinta la ogaaday shirkadii ay la shaqaynaysay ayaa tirtirtay dhammaan diiwaanadii si aan loogu xusin inay ahayd dambiile xitaa geerideeda kadib hooyada Suji waxay kula talisay Seohyun inuusan sii qodin arrintaas markii uu qolka ku noqday Seohyun weli ma rumaysan karin in hooyadiis naxariista badnayd ay ahayd qof sababay shil kadibna baxsatay isagoo aad ugu xiisay hooyadiis ayuu sariirta isku qariyey isagoo ooyaya sidii ilmo yar si lama filaan ah tahay ayaa timid si ay wax ugu soo celiso Seohyun waxayna ogaatay inuu isbitaalka jiifo maalmo ka hor iyadoo xiisaynaysa tahay waxay furtay diyaarad warqad ah oo Seohyun ka codsaday inay ilaaliso halkaas ayay ka ogaatay sirta ah inuusan Seohyun ahayn wiilka dhalay ninka taajirka ah Seohyun wuxuu u sheegay tahay in dareenkiisa ku aadan Suji uu ahaa saaxiibtinimo oo kaliya halka qofka uu dhab ahaan jecel yahay ay tahay iyada markii ay aragtay indhihiisa daacadda ah tahay way ka naxday xaaladiisa waxayna go'aansatay inay mar kale aaminto labadoodii way heshiiyeen waxayna mar kale noqdeen kuwa isu dhow tahay waxay sheegtay inay rajaynayso in haddii maalin uun Seohyun joojiyo jacaylka uu qabo uu si daacad ah ugu sheego ma aysan doonayn xiriir hal dhinac ah Seohyun ayaa si taxadar leh u weydiiyey haddii ay maalinta xigta ka soo qaadi karto isbitaalka wuxuu sheegay inuusan aabihii la xiriirin muddo dheer isla
markaana uusan lahayn qof mas'uul ah oo ka caawiya bixitaanka isbitaalka Taehe qalbigeedu wuu jilcay waxayna isla markiiba aqbashay inay caawiso farxad darteed Sehyun wuxuu soo saaray silsiladii ay hooyadiis xiran jirtay intii ay noolayd wuxuuna hadiyad ahaan u siiyey Taehe maalintii xigtay markii laga sii daynayay isbitaalka waxay ogaadeen in aabihii uu xanibay dhammaan kaararkii bangiga ee Sehyun nasiib wanaag Taehe ayaa bixisay lacagtii isbitaalka iyadoo kaftan ahaan ku sheegtay inay tahay lacagtii kiradeeda dhanka kale Suji waxay Hejung u kaxaysay isbitaalka si ay ookiyaalo cusub u hesho halkaas ayay ku aragtay aabaha Sehyun waxay ogaadeen in aragiisu si tartiib ah u sii daciifayo sabab aan la garanayn waxaana suurtagal ah inuu dhowaan indho beelo fiidkii Seju wuxuu ku dhawaaqay inuu iibsaday makhaayad hilib lagu dubo isla markaana uu bilaabi doono shaqo si uu lacag u sameeyo sababta kale ee uu makhaayada u iibsaday waxay ahayd in Suji ay jeceshahay maqaarka doofaarka la dubay maadaama Suji sidoo kale ay jeceshahay macmacaanka Seju wuxuu qorsheeyay inuu dukaan macmacaan ka furo albaabka jaamacadeeda hortiisa Kyungju waxay rajaynaysay in Sehyun uu si wanaagsan ula dhaqmo Taehe sidaas darteed waxay u dirtay sawirkooda iyagoo wada jooga markii Taehe ay aragtay saaxiibteedii ugu fiicnayd iyo wiilka ay jeceshahay oo si wanaagsan isu fahmaya iyaduna way ku faraxday maadaama kaararkii bangiga ee Sehyun la xanibay Taehe waxay u heshay shaqo waqti baartitem ah oo rinjiyeyn ah dukaanka ay ka shaqayso jaamacadda gudaheeda Taehe waxay si lama filaan ah ula kulantay hooyadeed iyo saaxiibteed shaqada saaxiibtaas ayaa si diiran ugu casuuntay Taehe inay casho la cunto dhacdadan waxaa arkaysay Suji waxay Kyungju ka ogaatay in haweenaydii ay maalintaas la joogtay aabaha Sehyun ay ahayd hooyada Taehe Suji Seju iyo Kyungju waxay go'aansadeen inay iska kaashadaan sidii ay Hejung uga caawin lahaayeen inay ka baxsato xakamaynta adag ee hooyadeed si ay u shukaansato Dohun Hejung waxay hooyadeed u sheegtay inay jaamacad booqanayso balse hooyadeed ayaa telefoonkeeda ku rakibtay qalab lagu dabagalo goobta ay joogto si aan loo ogaan waxay telefoonkeedii siisay Suji iyaduna waxay u baxsatay inay la kulanto Dohun kulankoodii jacaylka ahaa si wanaagsan ayuu u dhacay waxay xitaa u baxeen dalxiis iyo tamashle laakiin isla markaas hooyada Hejung ayaa soo wacday iyadoo ku amraysa inay guriga ku soo noqoto si ay xisaab u barato saaxiibadii oo dhan waxay bilaabeen inay raadiyaan hab ay waqtiga ugu dheereeyaan Kyungju waxay xitaa wacday hooyadeed si ay uga caawiso mashquulinta hooyada Hejung markii xal kale la waayay kooxdu waxay ugu yeereen rag dhowr ah inay la cabaan waxayna hooyada Hejung geeyeen qol heeso lagu qaado raggaas waxaa ka mid ahaa Dohun oo markaas ka soo tegay Hejung dhanka kale Sehyun wuxuu dhameeyay shaqadiisii rinjiyeynta wuxuuna ku sii jeeday guriga markii uu la kulmay Suji sidaas darteed wuxuu geeyay isbitaalka markii ay gaareen albaabka isbitaalka Suji waxay indhaheeda ku aragtay hooyadeed oo mudaaharaadayaal ukun ku tuurayaan dadkaas mudaaharaadaya ayaa hore uga qayb qaatay soo saarista badeecad cusub oo JK ah balse badeecadaas ayaa cilado yeelatay Suji waxay rabtay inay cashar u dhigto dadkaas laakiin Sehyun ayaa qabtay oo ka fogeeyay goobta inkasta oo Suji mar walba ka hor iman jirtay hooyadeed haddana markii ay aragtay inay dhibaato ku jirto kama labayn inay garab istaagto iyadoo qalbi jaban Suji waxay Sehyun ku tiri aan isguursano waxay rumaysnayd in haddii iyaga laftoodu isguursadaan waalidkood lagu qasbi doono inay joojiyaan heshiiska guurka ee u dhexeeya ma aysan awoodin inay daawato hooyadeed oo uu Sehyun aabihii u isticmaalayo dano gaar ah laakiin markan Sehyun uu diiday hadda qalbigiisa waxaa ku jiray Taehe oo keliya caradii ay qabtay darteed Suji si kama ah ayay u xustay in aabaha Sehyun uu xiriir la leeyahay haweenay kale Sehyun ayaa isla markiiba weydiiyey qofka ay tahay balse Suji wax jawaab ah masiin weyna iska dhaqaaqday Sehyun isagoo fikir badan la daalaa dhacaya ayuu guriga ku noqday halkaas oo uu ka helay Taehe oo sugaysa waxay wada aadeen qolka Taehe halkaas oo ay baasto ku cunayeen xidigahana daawanayeen iyagoo si farxad leh u sheekaysanaya waqtigaas ayaa niyadda Sehyun si weyn hagaagtay markii uu qolkiisa ku noqday wuxuu doonayay inuu sawir ka sameeyo wejiga Taehe laakiin ma awoodin inuu sawirkiisa ku muujiyo dhoola cadaynteeda quruxda badan sidaas darteed wuxuu si degdeg ah ugu orday gurigeeda isagoo ka codsaday inay mar kale u dhoola cadayso markii uu arkay wejigeeda ifaya iyo dhoola cadaynteeda quruxda badan Sehyun qudhiisu wuu qoslay dhanka kale hooyada Suji aad ayay maskax ahaan u burburtay kadib weerarkii mudaaharaadayaasha xoghayaha Dun ayaa ku suumay inay cabitaan wada qaataan intii ay gaariga ku jireen wuxuu u sheegay sir weyn Sehyun ma aha wiilka dhabta ah ee Sukhoon hooyada Suji aad ayay uga naxday arrintan waxa kale oo uu sheegay in sababta Sukhoon si degdeg ah ugu noqday madaxweyne ku-xigeenka shirkadda ay ahayd in ayeeyada qoyska ay si gaar ah u jeclayd Sehyun sidaas darteedna ay si qasab ah mas'uuliyadda ugu dhiibtay Sukhoon xoghayaha Dun wuxuu kula taliyay inay iska casisho xilka madaxweyne ku-xigeenka oo aysan nafteeda sidaas u daalin laakiin iyadu waxay ku jawaabtay in noloshan adag ay tahay noloshii ay weligeed doonaysay maalin kale Suji iyo Seju ayaa wadada ku wada socday Seju wuxuu geeyey goob yar oo lagu dubo hilibka nasiib darro halkaas ayay ku arkeen aabaha Sehyun iyo hooyada Taehe oo wada cashaynaya markaas ayay Suji ugu dambayn ogaatay in haweenayda uu aabaha Sehyun la socdo ay tahay hooyada Taehe markii ay dib u xasuusatay tilmaamihii ay hore u aragtay Suji waxay dareentay in jacaylkii iyo dadaalkii hooyadeed aan qiimo loo hayn dhanka kale Seokjun markii uu wax yar cabay wuxuu mar kale jacaylkiisii hore u qirtay dareenkiisa wuxuu ka codsaday inay dib isugu soo laabtaan isagoo ballan qaaday inaan waxba isbedeli doonin Yungwan ayaa rumaysatay daacadnimadiisa labadoodii si adag ayay hab isku siiyeen sanado badan ka hor kadib markii ay kala tageen Yungwan waxay wadada kula kulantay aabaha Taehe waxay isku barteen caraf cadar ah oo gaar ah kadibna way isguursadeen waxayna dhaleen ilmo maalintaas Sehyun waxaa shirkadda ugu yeeray aabihii warar sheegaya in Sehyun loo dhigay isbitaal sababo la xiriira darooga ayaa faafay taasoo sababtay in saamiyada Group hoos u dhacaan Seokjun aad ayuu uga carooday arrintan Sehyun ayaa mar kale weydiiyey haweenayda uu la socdo qofka ay tahay isagoo sheegay
inuu baaritaan ku samayn doono hooyada Suji ayaa isku dayday inay xaaladda dejiso. Waxay soo jeedisay in Seo-hyun loogu sameeyo baaritaan caafimaad isbitaalka ay maamusho markii natiijooyinka la shaaciyo warbaahintu waxay joojin lahayd faafinta xanta, laakiin aabaha iyo wiilka labaduba way diideen. sidaas darteed kulankii wuxuu ku dhammaaday jawi aad u xun. saamilayda J Group ayaa sidoo kale ka walwalsanaa fadeexada daroogada iyo wararka la xiriira laaluush siyaasadeed. hooyada Suji waxay soo jeedisay in Myung Jun Group qabato shir jaraa'id si loo caddeeyo xaqiiqda. dhanka kale Kyung ayaa aaday maqaayadda qaxwada oo ay Tae-hee uga sheegtay wararka daroogada ee ku saabsan Seo-hyun. Tae-hee ayaa si adag ugu jawaabtay. waxay ku tiri qof aan kala saari karin sax iyo qalad inuusan xaq u lahayn inuu noqdo qareen. Tae-hee aad ayay uga walwalsanayd Seo-hyun. waxay ku sugtay jidka uu guriga ku soo noqonayo markii ay aragtay isagoo murugo badan. si degdeg ah ayay ugu orday oo si adag ayay hab u siisay. Seo-hyun ayaa markaas gurigeeda u raacay. halkaas ayuu ku arkay iyada oo shaqooyinkeedii waxbarasho ku dhex qabanaysa guri aad u qasan. Seo-hyun oo qurux badan islamarkaana naxariis leh ayaa ka caawiyey nadiifinta guriga muddo yar gudaheed. qolka oo dhan wuxuu noqday mid nadiif ah oo hagaagsan. subaxdii xigtay Seo-hyun wuxuu Tae-hee ku qasbay inay orod yar sameeyaan. Tae-hee aad ayay u daashay waxayna fadhiisatay dhulka. Seo-hyun ayaa si tartiib ah u qaaday oo kursi geeyey. isla waqtigaas kubad ayaa dhinacooda ku soo duushay. Tae-hee waxay isku dayday inay Seo-hyun ka ilaaliso in kubadda madaxa kaga dhacdo, laakiin iyada lafteedu way dhacday, gacanteedana way dhaawacantay. Seo-hyun ayaa daawo mariyey dhaawaceeda. Tae-hee waxay tiri inay ku faraxsan tahay in kubadda aysan madaxa isaga uga dhicin. dhanka kale macallin ayaa Suji ku casuumay inay bandhig samayso. Suji aad ayay ugu faraxday iyadoo u malaynaysa in hibadeeda la aqoonsaday, laakiin markiiba macallinku wuxuu ka codsaday inay ka caawiso sidii Cultural Foundation u maalgelin lahayd mashruucooda. markaas ayay Suji ogaatay in tani ahayd ujeedada dhabta ah ee martiqaadka. iyadoo dareentay in la isticmaalay aad ayay u xanaaqday. waxay markaas u tagtay maqaayadda hilibka lagu dubo ee Seju. halkaas telefishinka waxaa ka socday shirkii jaraa'id ee hooyadeed. saxaafaddu waxay weydiinayeen su'aalo adag oo xasaasi ah. nasiib wanaag maadaama ay hore ugu diyaar garowday si xirfad leh ayay uga jawaabtay dhammaan su'aalihii Suji. markii ay aragtay in hooyadeed loo adeegsanayo danaha JK Group aad ayay uga carootay. waxay qaadatay majalad ay ku qornaayeen wararka guurka hooyadeed iyo aabbaha Sehun. kadibna waxay tagtay bandhiga farshaxanka ee hooyada Tae-hee iyadoo iska dhigaysa qof xiisaynaya bandhiga ayay weydiisatay saxiix. markii Young Won ay aragtay wararka ku saabsan guurka wejigeedu isla markiiba wuu isbedelay. waxay moodaysay inay ugu dambayn la noolaan karto ninka ay jeceshahay, balse waxay ogaatay in la khiyaameeyey. Suji ayaa dib ugu noqotay shirkadda halkaas oo Sehun uu yimid. labadoodu way wada sheekaysteen. Sujina waxay uga warantay waxyaabo xiiso leh. Sehun ayaa mar kale weydiiyey qofka ay tahay haweeneyda uu aabbihii la socdo. Suji iyadoo ka baqaysa inuu dhaawacmo weli way qarisay runta. kadib shirkii jaraa'id hooyada Suji waxay ogaatay inay weyday hal dhigood. markaas ayay dib ugu noqotay goobtii si ay u raadiso. halkaas ayay kula kulantay xoghayaha Don oo isaguna caawinayay. mar kale ayuu kula taliyey inay shaqada ka tagto, balse iyadu waxay qiratay inay jeceshahay Seokdae waxayna uga digtay inuusan arrimahooda soo dhexgelin. dhanka kale gudoomiyaha J Group oo sidoo kale ah ayeeyada Sehun ayaa dib uga soo laabatay dibadda. waxay wiilkeeda weydiisay waxa dhab ahaan ka dambeeya heshiiska ay la galeen Myung Jun Group. Seong-yeon si daacad ah ayuu u sheegay in ujeedadu tahay badbaadinta mashruuca dawooyinka bayolojiga ah iyo in shirkadda si guul leh suuqa saamiyada loogu daro. gudoomiyuhu wuxuu uga digay inuu taxadar badan sameeyo si qorshuhu uusan u fashilmin. kadibna waxay ku tiri erayo culus. walaalka weyn, xaaskiisii iyo hooyada Sehun dhammaantood waxay u dhinteen adiga dartaa. waxay ku dartay in shaqada ugu muhiimsan hadda ay tahay in Sehun maskax ahaan deganaado islamarkaana shirkaddu sii xoogaysato. maalintaas Tae-hee waxay ahayd inay tababar shaqo ugu baxdo beeraha. Sehunna wuu raacay. qoraxdu si diiran ayay u ifaysay. muuqaalka deegaankuna wuxuu ahaa mid degan oo qurux badan. Sehun wuxuu dareemayay inuu sii jeclaanayo Tae-hee maalinba maalinta ka dambaysa, islamarkaasna wuxuu sii dareemayay cabsi ah inay maalin ogaato beentii uu markii hore ka qariyey. kadib shaqadii labadoodu sawiro ayay wada galeen waxayna gacmaha isqabsadeen iyagoo ku dul socda jidka tareenada. muuqaalku wuxuu ahaa mid aad u macaan oo jacayl leh. Sehun markii ugu horreysay ayuu cabbay khamriga bariiska laga sameeyo, wuxuuna si kama ah u cabbay wax ka badan intii loogu talagalay. sidaas darteed wuxuu seegay baskii ugu dambeeyey ee ku laabanayay Seoul. maadaama aysan jirin doorasho kale waxay ku qasbanaadeen inay halkaas ku hoydaan. si lama filaan ah hodheelkii waxaa ka bannaanaa hal qol. sidaas darteed Sehun iyo Tae-hee waxay ku qasbanaadeen inay wadaagaan hal qol iyagoo markii ugu horreysay qol wada degaya. labadooduba way xishoonayeen islamarkaana way faraxsanaayeen. Sehun ayaa mar kale si daacad ah ugu sheegay Tae-hee dareenkiisa jacayl hab ayayna isa siiyeen. ugu dambayntiina way wada seexdeen. subaxdii xigtay kadib quraac wanaagsan waxay gacmaha isqabsadeen iyagoo ku socda waddo yar. markaas ayaa gaari xawaare sar socda dhinacooda maray. Tae-hee aad ayay u naxday. Sehunna si degdeg ah ayuu gacmihiisa ugu soo jiiday si uu u ilaaliyo. Tae-hee waxay u sheegtay in 2 sano ka hor ay gashay shil gaari oo aad u daran. darawalkii shilka geystayna uu goobta ka baxsaday. dhacdadaas ayaa ku reebtay dhaawac nafsiyeed oo ilaa hadda la socda. markii uu maqlay faahfaahinta shilka Sehun wuxuu xusuustay wixii ay hore ugu sheegtay hooyada Suji. maskaxdiisa waxaa ku soo dhacay fikrad cabsi leh. waxaa laga yaabaa in Tae-hee ay ahayd gabadhii dugsiga sare ee lagu dhuftay shilkaas baxsadka ahaa. si taxadar leh ayuu u weydiiyey haddii aad hesho qofkii gaariga kugu dhuftay maxaad samayn lahayd. Tae-hee si aan labalabayn uga jawaabtay weligay ma cafin doono. dhanka kale aabbaha Seju wuxuu doonayay inuu kormeero maqaayadda hilibka lagu dubo ee wiilkiisa. sidaas darteed Seju wuxuu si degdeg ah ugu yeeray saaxiibadii si ay u taageeraan. Kyung Ju ayaa iyaduna timid
yimid. Seju wuxuu si ula kac ah u weydiiyey sababta Taehae aysan u imaan. Kyungju ayaa cudurdaar degdeg ah samaysay. Suji waxay u muuqatay inay fahamtay in maqnaanshaha Taehae iyo Sehun ay ka dhigan tahay inay wada joogaan, iyadoo xanaaqsan ayay ka baxday. Maqaayadda Kyungju ayaa Seju weydiisay inuu ogaa in Sehun iyo Taehae ay ishukaansanayaan. Waxay sheegtay in Sehun uu ka codsaday inay arrinta qariso. Seju si degan ayuu ugu jawaabay, jacaylka lama qarin karo. Waxaa laga yaabaa in Suji mar hore garaatay. Dhanka kale, Suji waxay keligeed ku tababaraneysay qalabka seloga goobtii ay saddexdoodu ku kulmi jireen. Seju ayaa isla markiiba halkaas ugu yimid, kadibna si lama filaan ah ayuu u dhunkaday. Suji aad ayay u xishootay oo u wareertay, wax eray ah ma oran, balse dhabarka ayay jeedisay oo iska tagtay. Dhanka kale, Seju waxaa mar kale canaantay awowgii. Sababtu waxay ahayd inuu maqaayada furay isagoo aan fasax haysan. Awowgiis wuxuu amray in haddii uusan bil gudaheed faa'iido samayn la xidho maqaayada. Xaaska walaalkiis ayaa sidii caadiga ahayd ku jeesjeestay. Hadday noqoto Suji ama qoyskiisa, wax walba waxay Seju ku abuureen cadaadis iyo murugo. Taehae ayaa si farxad leh Sehun ugu yeertay gurigeeda si ay baasto u wada cunaan. Si kama ah, Sehun wuxuu helay warqadii natiijada baaritaanka DNA-ga. Wuxuu weydiiyey Taehae inay aragtay iyo in kale. Taehae si degdeg ah ayay u sharaxday inaanay ula kac u furin, wayna ka raali gelisay. Sehun wuxuu u sheegay inuu xaqiiqadan ogaatan iyo markii ugu horeysay ee ay kulmeen, wuxuuna rajaynayay inaan cid kale ogaan sirtaas. Kadib wuxuu dib ugu noqday qolkiisa isagoo murugo badan. Taehae ayaa albaabkiisa timid si ay mar kale uga raali geliso. Sehun ayaa albaabka furay, wuxuuna ku yidhi waxaan rabaa inaan keligay ahaado. Kadib albaabka ayuu xiray isagoo Taehae kaga tegay bannaanka iyadoo aamusan oo murugo dareemaysa. Kadib markii Seju uu dhunkaday, Suji markay guriga tagtay ayay sii xanaaqday mar kasta oo ay arrinta ka fikirto. Sidaas darteed waxay Seju ka codsatay inay kulmaan, laakiin si lama filaan ah Seju ayaa ku kaftamay isagoo weydiiyey ma waxaad rabtaa inaad habeen ila seexato. Suji aad ayay uga cadhootay hadalkaas, isla markiiba way istaagtay oo meesha way ka tagtay. Dhanka kale, Seohyun wuxuu la xiriiray sarkaalkii booliiska ee ka caawiyey baaritaanka shilkii gaariga. wuxuu rabay inuu xaqiijiyo magaca dhibanihii shilka. Maalintaas sarkaalka ayaa u sheegay inaan la bixin karin macluumaadkaas sababo la xiriira asturnaanta. Si kastaba ha ahaatee, wuxuu sheegay inuu hubinayo in dhibanuhu hadda si wanaagsan u nool yahay, islamarkaana uu xitaa galay jaamacadda Seoul. Markii uu taas maqlay, Seohyun wuxuu sii rumaystay shakigiisii ahaa in gabadhaasi ay ahayd Taehae. Maalin kale, Seju ayaa Seohyun weydiiyey sababta uu qof walba uga qariyey xiriirkiisa Taehae, laakiin si lama filaan ah Seohyun wuxuu jawaabay annaga ma wada joogi karno. Wuxuu sheegay in dhowaan wax walba dib ugu noqon doonaan sidii loogu talagalay. Kadib Seohyun ayaa Seju weydiiyey sida ay wax uga socdaan isaga iyo Suji. Seju wuxuu qosol qasab ah la yimid isagoo leh xiriirka aniga iyo iyada taasi runtii waa wax aan suurtagal ahayn. Isla waqtigaas Suji ayaa timid goobtii ay saddexdu ku kulmi jireen. waxay Seohyun weydiisay haddii uu Taehae la joogay dhammaadkii usbuucii hore. waxay xitaa ugu hanjabtay inay taqaan qofka la socdo. Aabihii Seohyun ayaa si adag ugu jawaabay in Taehae aysan wax xiriir ah la lahayn haweenaydaas. wuxuu kaloo sheegay in Suji sheegto ama aysan sheegin, isaga mar hore go'aansaday inuu Taehae ka tago. Dhanka kale, Taehae waxay warqad yar uga tagtay albaabka qolka Seohyun. waxay rajaynaysay inuu aamino inaysan si ula kac ah u arkin sirtiisa. markii Seohyun arkay warqadaas, qalbigiisu wuu jilcay. wuxuu galay jahawareer weyn, mana garanayn waxa saxda ah ee uu sameeyo. isagoo eegaya sawirka hooyadiis ayuu si hoose u yidhi maxaa sax ah inaan sameeyo. dhanka kale, Suji waxay hooyadeed uga warantay arrinta ku saabsan aabbaha Seohyun iyo xiriirkiisa qarsoon, laakiin si lama filaan ah ayay u ogaatay in hooyadeed muddo dheer arrintaas ka warqabtay. Suji waxay ka codsatay hooyadeed inaysan sii dhexgelin xaaladaas adag. hooyadeedse waxay kula talisay inaysan ka welwelin arrimaha dadka waaweyn. subaxdii xigtay markii Seohyun guriga ka baxayay, Taehae ayaa si xishood leh u weydiisay weli ma ii xanaaqsan tahay. Seohyun wuxuu ugu jawaabay inuusan xanaaqsanayn. wuxuu sheegay inuu doonayo oo keliya inuu keligiis waxyaabo qaar ka fikiro. kadibna wuxuu ku casuumay inay caawa casho wada cunaan. Taehae aad ayay ugu faraxday martiqaadkaas. dhanka kale, Seohyun wuxuu keligiis aaday qabriga hooyadiis isagoo ilmeynaya. ayuu qirtay in Taehae tahay gabadhii u horeysay ee uu si dhab ah u jeclaado tan iyo yaraantiisii, laakiin wuxuu dareemayay inay jiraan sir badan iyo beeno badan oo u dhexeeya. wuxuu rumaysnaa in si uu Taehae uga ilaaliyo xanuun dheeraad ah uu qasab ku yahay inuu soo afjaro xiriirkaas. inkastoo uu jecel yahay jaamacadda dhexdeeda, Taehae iyo Kyungju ayaa la kulmay Suji. markii ay kala tegayeen, Suji si ula kac ah ayay Taehae ugu tiri caawa waan ku arki doonaa. Taehae iyo Kyungju waxay u maleeyeen in Seohyun uu Suji sidoo kale ku casuumay cashada iyadoo aan rabin in lala barbardhigo Suji. Taehae si qurux badan ayay isu diyaarisay habeenkaas. isla waqtigaas, hooyada Taehae waxay la joogtay aabbaha Seohyun. waxay ogeyd inuu dhowaan guursan doono. inkasta oo Seokhon uu jeclaa hooyada Taehae, haddana si uu xirfadiisa u hormariyo wuxuu ku qasbanaa inuu guursado hooyada Suji. si kastaba ha ahaatee, wuxuu weli rajaynayay inuu mararka qaar arko Yongwon, laakiin qalbiga Yongwon hadda jacaylkii wuu ka dhammaaday. markii ay dayar ahayd, waxay maqashay inuu guursanayo, haddana sannado badan ayay sugaysay. hadda xaaskiisii hore way geeriyootay, balse haddana wuxuu guursanayaa haweenay kale. Yongwon waxay go'aansatay inaysan mar dambe sugayn. markii la gaaray waqtigii cashada, Suji ayaa Seohyun weydiisay maanta Taehae ma qurux badnayn, laakiin si lama filaan ah Seohyun wuxuu bilaabay inuu si kulul uga hadlo Taehae. wuxuu si ula kac ah u sheegay erayo dhaawacaya dareenkeeda. Taehae markii ay aragtay inuu mar kale u dhaqmay sidii qof qalbi adag, murugo ayay dareentay. waxay si toos ah u weydiisay miyaadan mar dambe i jeclaan doonin. Seohyun si kulul ayuu u xaqiijiyey. Taehae aad ayay uga xanaaqday ugana murugootay. way istaagtay oo meesha way ka tagtay. kala taga kadib, Seohyun aad ayuu u niyad jabay. wuxuu aaday baar wuxuuna cabay khamri badan. Suji ayaa guriga geysay, balse maadaama ay deris ahaayeen, guriga oo dhan wuxuu xambaarsanaa xusuustii iyaga iyo Taehae. sababtaas awgeed Seohyun ma doonayn inuu kor u baxo. markii Suji ay aragtay Taehae oo taagan dabaqa hoose, isla markiiba
gaariga ayay xawaare ku kaxaysay waxay Seo-hyun geysay goobtii hore ee ay saddexdooda ku kulmi jireen. Seo-hyun oo sakhraansan ayaa Suji ku yiri markii hore mar kasta oo wax murugo leh dhacaan saddexdeena ayaan wada wajihi jirnay. kadibna wuxuu sii raaciyay laakiin hadda qalbigaygu wuu isbedelay. markii uu sidaas yiri wuxuu si tartiib ah uga qaaday gacanta Suji ee wajigiisa saarnayd. Suji ayaa markaasi kama ah u ogaatay in qayb ka mid ah silsilada uu Seo-hyun u xirneed ay maqan tahay. waxay dareentay in silsiladaas iyo qalbiga Seo-hyun labaduba hadda ay la xiriiraan. tahay silsiladaas waxay ahayd dhaxal qaali ah oo uga timid hooyadii Seo-hyun. markii Suji ogaatay in Seo-hyun si dhab ah u jecel yahay tahay qalbigeedu aad ayuu u jabay waxayna u oyday si cod dheer. dhanka kale Seju wuxuu Kyung-ju geeyay gurigeeda. wuxuu doonayay inuu dareenkiisa muujiyo sidaas darteed si tartiib ah ayuu ugu soo dhawaaday wuxuuna ka dhunkaday dhabanka. Kyung-ju ayaa dhoola cadaysay iyadoo u sheegtay in ay mar walba u aragtay saaxiib caadi ah oo keliya. waxay kaloo qiratay inay hore ugu abuurtay xaalad qallafsan laakiin markii ay gudaha guriga gashay waxay ku dhacday gacmaha hooyadeed iyadoo si daran u ooyeysa. dhunkashadaas ayaa xaqiijisay dareen ay hore u qarsanaysay. waxay garatay inay dhab ahaan jeceshahay Seju laakiin isla markaas waxay fahamtay in qalbiga Seju uu qof kale ku jiro. iyadoo aan rabin inay xaaladda sii adkaysato Kyung-ju waxay go'aansatay inay dareenkeeda iska ilowdo. dhanka kale hooyada Haejun waxay booqatay hooyada Suji. waxay rabtay in isbitaalka Yongjang uu bixiyo warbixin caafimaad oo been abuur ah si wiilkeeda looga dhaafo adeega militariga laakiin hooyada Suji si adag ayay u diiday. waxay sheegtay in isbitaalkoodu aanu weligii soo saari doonin shahaado been ah. hooyada Haejun ayaa anaaqday waxayna ku eedeysay inay aad u adag tahay. waxay kaloo xustay inay aragtay aabbaha Seo-hyun oo isbitaal kale u tegay baaritaan indhaha ah si lama filaan ah. aabbaha Seo-hyun ayaa keenay digaag shiilan iyo biir isagoo u yimid hooyada Suji. waxay weydiisay inuu xanuunsan yahay iyo in kale laakiin Seyonkun wuxuu ku jawaabay inuu caafimaad qabo islamarkaana aysan ka walwalin. dhanka kale tahay aad ayay uga murugootay kala tagii Seo-hyun. si kastaba ha ahaatee markay aragtay in Hyunju iyaduna aad uga murugaysan tahay oo aysan wax cunayn ama cabayn waxay isku dayday inay xoog yeelato. waxay saaxiibteed geysay meel lagu cuno cuntada ay ugu jeceshahay. tahay waxay iska dhigtay qof adag iyadoo leh aniguna jacayl uma baahni. kadib hooyada Hyunju ayaa aad ula dhacday tahay sababtoo ah waxay ahayd gabar caqli badan oo qurux badan. sidaas darteed waxay u soo bandhigtay shaqo macalin si ay lacag dheeraad ah u hesho. hooyada Haejong oo meel u dhow joogtay ayaa maqashay wada sheekaysigaas. waxay ku qanacday in tahay noqoto macalinka wiilkeeda. dhanka kale Suji waxay Seo-hyun iyo Seju ugu yeertay goobtoodii qarsoodiga ahayd. waxay Seo-hyun u sheegtay in aabbiyi xiriir la leeyahay farshaxanad samaysa dhoobada. waxay xitaa tustay xogteeda laakiin weli ma aysan sheegin in haweenaydaasi tahay hooyada tahay. Seo-hyun ayaa markaas u tegay xoghayaha Dun si uu runta u ogaado. ninkaasi wuxuu u sheegay hal arrin oo muhiim ah. maalintii hooyada Seo-hyun gashay shilka gaariga waxay u socotay inay la kulanto farshaxanada dhoobada. macluumaadkan ayaa sii kordhiyey rabitaankii Seo-hyun ee ahaa inuu ogaado runta ka dambaysay geerida hooyadii. kadib markuu si qoto dheer uga fikiray wuxuu go'aansaday inuu iimayl u diro farshaxanada si uu kulan ula yeesho. dhanka kale ayeeyada Seo-hyun ayaa booqatay hooyada Suji. waxay rajaynaysay in dawada cusub suuqa loo soo saaro sida ugu dhaqsaha badan marka tijaabooyinka caafimaad dhammaadaan. waxay sidoo kale ballanqaaday inay siin doonto saamiyo shirkadeed iyadoo ku salaynaysa natiijooyinka mashruuca. hooyada Suji si farxad leh ayay u aqbashay iyadoo sheegtay inay dadaalkeeda oo dhan gelin doonto. maalintaas Young-won waxay timid maqaayadda qaxwada ee ay gabadheedu ka shaqayso. waxay ku dhawaaqday inay ka tegayso Seoul kuna laabanayso Incheon. waxay sidoo kale hadiyad siisay Tae Young-won. waxay gabadheeda ugu warantay dhibaatooyinkii ay soo martay sanadihii badan. waxay u sheegtay inaysan lahayn qof cusub oo ay xiriir la leedahay. wadahadalkooda ayaa si weyn u hagaajiyey xiriirka hooyo iyo gabar. dhanka kale maadaama daawada cusub la rabay in la suuq geeyo hooyada Suji waxay ku jirtay cadaadis aad u weyn. waxay marar badan ku qasbanaatay inay daawooyin qaadato. Suji way u adkaysan kari weyday markay aragtay sida hooyadeed isu daalinayso. sidaas darteed waxay codsatay kulan ay la yeelato aabbaha Seo-hyun. kulankaas Suji si toos ah ayay u tiri ma daawan karo hooyaday oo Jik Group uu adeegsanayo danahooda. kadib waxay soo jeedisay inay iyadu guursato Seo-hyun. waxay aaminsanayd in sidaas labada qoysba faa'iido ganacsi ka heli doonaan. aabbaha Seo-hyun na uu sii arki karo qofka uu dhab ahaan jecel yahay. markii uu maqlay soo jeedintan Seyonkun aad ayuu uga fikiray. wax yar kadib wuxuu u sheegay hooyada Suji wixii ay gabadheedu soo jeedisay. taasi aad ayay uga yaabisay. Seo-hyun ayaa si degan u dejiyey xaaladda. wuxuu sheegay inuu og yahay in hooyada Suji aysan guurka u arkin heshiis ganacsi oo keliya laakiin haddii carruurtu ka soo horjeedaan guurkaasi ma hirgeli karo. hooyada Suji waxay adkaysatay in carruurtu aysan arrintan shaqo ku lahayn. waxay sheegtay inay sii wadi doonto shaqadeeda. nasiib darro natiijooyinka tijaabooyinka caafimaad ma noqon sidii la filayay si daawada suuqa loogu soo saaro si degdeg ah. hooyada Suji ugu dambayn waxay aqbashay inay caawiso hooyada Hyejung oo ay siiso warbixintii caafimaad ee beenta ahayd. beddelkeeda waxay heli lahayd taageero siyaasadeed oo mashruuca ka caawisa.
in qirtay runta oo dhan wuxuu sheegay in qofkii 2 sano ka hor gaariga ku dhuftay kadibna baxsaday uu ahaa hooyadiis sababtaas awgeed ma awoodin inuu mar dambe si caadi ah ula kulmo Taehae waxay ku jawaabtay in arrintaasi aysan ahayn qaladkiisa mana aqbali karin in xiriirkooda lagu soo afjaro sababtaas oo kale ah waxay u sheegtay in inta ay isaga la joogto wax kasta oo kale aysan muhiim ahayn Seokhyun oo muddo dheer xanuunkaas qalbiga ku qarsanayay ayaa aad u taabtay hadalladeeda wuxuu isku duubay Taehae isagoo si xooggan u ooyaya markii ay guriga ku noqdeen Seokhyun mar kale si dhab ah ayuu uga raali geliyay Taehae waxay xasuusatay hadalkii ayeeyooyinka guriga daryeelka haddii aad raali gelin bixinayso ugu yaraan 3 jeer sheeg si ay u noqoto mid daacad ah kadib markii uu 3 jeer raali gelin bixiyay xanaaqii Taehae si tartiib ah ayuu u baabay Seokhyun ayaa qalbigiisa furay wuxuuna si daacad ah uga sheekeeyay dareenkiisa sidaas ayay ugu dambeyn ku xaliyeen isfaham waagii u dhaxeeyay kadib Seokhyun wuxuu xusay in aabihii si qarsoodi ah ula kulmi jiray haweeney kale maalintii ay hooyadiis geeriyootay waxay iyaduna ku sii jeeday inay la kulanto haweeneydaas markii shilku dhacay Seokhyun wuxuu rabay inuu ka aarguto arrintaas laakiin Taehae ma rabin in qofka ay jeceshahay uu nacayb ku mashquulo oo uu farxadiisa luminayo waxay ku tiri mararka qaarkood aargudasho ma keento nabad Seokhyun uu dhoola cadeeyay kaliya wax jawaab ahna ma bixin dhanka kale hooyada Suji ayaa la kulantay siyaasi awood badan ninkaasi wuxuu ogolaaday inuu ka caawiyo daawada J Group inay suuqa si degdeg ah u gasho laakiin wuxuu ku xiray shuruud ah in dadkiisa loo aqoonsado bukaano gaar ah oo isbitaalka Myeongdong ah hooyada Suji isla markiiba way aqbashay xoghayaha Don ayaa markaas u sheegay hooyada Suji in Seokhyun ogaaday in aabihii xiriir la leeyahay haweeney kale wuxuuna sidoo kale ka shakisan yahay in shilka hooyadiis uu xiriir la leeyahay haweeneydaas hooyada Suji ah ayay uga naxday waxay weydiisay sida uu u sheegi karo Seokhyun runta xoghayaha Don si degan ayuu ugu jawaabay markuu ogaado in hooyadiis aysan ahayn qofkii shilka geystay isaga ayaa arrinta dejin doona kadib wuxuu weydiiyey meel ay ku qariyeen gaarigii shilka galay waxay sheegtay inuu weli ku jiro garaashka isla markaana muddo dheer aan la isticmaalin hadalladan ayaa muujiyay in geerida hooyada Seokhyun aysan u fududayn sidii hore loo moodayay dhanka kale Seokhyun wuxuu gaarigiisa ku aaday Incheon si uu ula kulmo hooyada Taehae waqtigaas weli ma uusan ogeyn inay tahay hooyada gabadha uu jecel yahay wuxuu siiyey buugga ururinta farshaxanka ee Cultural Foundation gudaha buugga waxaa ku jiray diiwaano muujinaya in aabihii sanado badan si qarsoodi ah u iibsan jiray farshaxanadeeda dhoobada Seokhyun wuxuu sidoo kale u sheegay in hooyadiis geeriyootay iyadoo ku sii jeeda inay la kulanto iyada kuwan aad ayay uga naxday marnaba ma aysan filayn in geerida hooyada Seokhyun ay iyada si dadban ula xiriirto waxay ka daba carartay si ay raali gelin u bixiso laakiin Seokhyun uu iska indho tiray si kuluna uu uga tagay markii Yongwon dib u xasuusatay habeenkii shilka dhacay waxay ogaatay qaladkeedii habeenkaas waxay sugaysay telefoonka Seokhyun mana aysan dhegaysan codsigii Taehae ee ahaa inay dugsi bedesho Taehae oo xanaaqsan ayaa guriga ka baxday intii ay wadada ku jirtay gaari ayaa ku dhacay dhanka kale aabaha Seokhyun ayaa u sheegay in Suji ay ahayd qofkii markii hore soo jeediyey qorshaha guurka wuxuu u maleeyay in Seokhyun uu qorshahaas u isticmaalayo inuu booskiisa shirkadda ku adkaysto laakiin Seokhyun si adag ayuu u diiday wuxuu yiri weligay dadka uma isticmaali doono sida aad adigu u isticmaasho wuxuu sidoo kale qirtay inuu la kulmay haweeneydii uu aabihii xiriirka la lahaa isaga oo runta uga sheegay geerida hooyadiis wuxuu sheegay inuusan doonayn in hooyadiis keligeed ku dhibtooto aakhiro halka qofka kale uu si nabad ah u noolaanayo isagoo aan waxba ogeyn wadahadalkoodii wuxuu ku dhammaaday muran iyo jawi xun maalintaas waxay ahayd dhalashadii Seokhyun Suji iyo Seju ayaa goor hore tagay goobtoodii qarsoodiga ahayd waxay diyaariyeen keeg iyo shumacyo si ay ugu dabaaldegaan laakiin Seokhyun niyad uma hayn dabaaldeg isla markii uu yimid wuxuu Suji weydiiyey waxa ay ku tiri aabihii wuxuu sheegay in hadalladeedu keliya ka dhigeen qof nacas u muuqda Suji ayaa iyaduna dib u weydiisay miyaanay ujeedadii asalka ahayd ee aad ugu dhawaatay Taehae ahayn inaad guursato waxay sheegtay inay keliya fulinaysay heshiiskii ay hore u wada galeen markaas ayuu Seokhyun si daacad ah u qirtay qalbigaygu runtii uu isbedelay wuxuu sheegay in qofka uu hadda jecel yahay ay tahay Taehae wuxuu sharxay in markii hore uu aqbalay qorshaha inuu Taehae soo jiito si uu kalsoonida Suji u helo laakiin hadda isaga laftiisu aanu diyaar u ahayn inuu Taehae ka tago markaas ayay caddaatay in balantii ay saddexdu hore u galeen ee ahayd inay is-aaminaan oo aysan wax sir ah qarsan ay gebi ahaanba burburtay ugu dambayn Seju ayaa Suji kula taliyey haddii aad runtii rabto inaad Seokhyun sii haysato muuji daacadnimo buuxda ha noqon sida aniga oo kale hadalkaas wuxuu ka tarjumayay qoomamadii Seju ee ku saabsan jacaylkiisa iyo khaladaadkii uu hore u galay dhab ahaantii Suji muddo dheer ayay ogeyd in Seju uu jacayl u qabo iyada maanka kale Taehae waxay ku sugaysay Sehyun banaanka guriga markii ay meel fog ka aragtay isaga oo wada gaarigii hooyadiis maskaxdeeda waxaa si lama filaan ah ugu soo noqday xusuustii shilkii 2 sano ka hor dhacay maalintaas waxay guriga ka baxsatay iyadoo ka xanaaqsan hooyadeed iyadoo wadada maraysa ayay aragtay haweeney gaari ku dhex jirta oo xaalad caafimaad oo degdeg ah ku dhacday Taehae oo qalbi wanaagsan leh waxay rabtay inay caawimo u raadiso laakiin intii ay sidaas samaynaysay gaari kale ayaa ku dhacay xusuusteeda gudaheeda qofkii ku dhuftay ee baxsaday ma ahayn hooyada Sehyun dhanka kale Taehae waxay guriga ugu dabaaldegtay dhalashada Sehyun waxay u rajaysay caafimaad iyo farxad arrintaas ayaa Sehyun xasuusisay dhalashooyinkii hore markii hooyadiis markasta u ducayn jirtay isla waxyaabahaas Taehae waxay siisay albam sawirro ah oo ay iyadu samaysay gudihiisa waxaa ku jiray sawiradooda ay wada galeen Sehyun aad ayuu ugu farxay hadiyadaas laakiin qalbigiisa waxaa ku jiray cabsi weyn wuxuu ka baqayay in maalin Taehae ogaato sababtii dhabta ahayd ee uu markii hore ugu soo dhawaaday sababtaas waxay ahayd sharad uu la galay Suji wuxuu go'aansaday inay ka wanaagsan tahay inuu isagu runta sheego intaan sirtaasi banaanka u soo bixin habeenkaas waxaa daayay roob xoogan oo ay la socdeen onkod iyo hilaac Sehyun wuxuu ka walwalsanaa in Taehae ka baqdo sidaas darteed ayuu telefoon u diray si ay u sheekaystaan wuxuu weydiiyey waxa ay jeceshahay inay samayso maalmaha roobka markii ay jawaab bixin weyday wuxuu soo jeediyey inay is arkaan Taehae waxay qaadatay barkinteedii waxayna si degdeg ah ugu oroday gurigiisa nasiib darro Suji ayaa aragtay iyadoo gudaha u galaysa
sheekaysanaysa waxay si khaldan u fahamtay inay wada nool yihiin iyadoo murugo leh ayay aamusnaan ku tagtay markasta oo Suji dhaawac dareento Seju ayaa ahaa qofka had iyo jeer garab taagnaa sababtaas awgeed Suji waxay go'aansatay inay joojiso diidmadeedii ku saabsan guurka waalidkeed subaxdii xigtay Sehyun wuxuu Taehae geeyey jaamacadda halkaas ayay kula kulmeen Suji Taehae iyadoo xishoonaysa ayay gacanteeda ka siibtay gacanta Sehyun laakiin Sehyun si adag ayuu u qabtay mar dambe ma doonayn inuu dareenkiisa qariyo wuxuu go'aansaday inuu si geesinimo leh u wajaho jacaylkiisa dhanka kale ayeeyada Sehyun ayaa ku casuuntay Suji hooyadeed iyo Sehyun casho miiska cashada ayeeyadu si kulul ayay ula dhaqantay Suji iyo hooyadeed waxay xitaa samaysay marmarsiinyo ay labada dhalinyaro uga dirtay qolka Suji oo ka walwalsan hooyadeed ayaa si qarsoodi ah u shiday cod duubista taleefankeeda markii carruurtu baxeen ayeeyadu waxay hooyada Suji uga digtay inay garato meesha ay kaga jirto qoyska marka ay soo gasho markaas ayaa run kale soo baxday maalintii ay geeriyootay hooyada Sehyun ayeeyadu waxay ahayd qofkii u sheegay in ninkeeda iyo gabadha uu jeclaa ay doonayaan inay xiriirkooda si rasmi ah u shaaciyaan waxay xitaa siisay cinwaanka guriga hooyada Taehae markii Suji dib ugu soo noqotay qolka oo ay aragtay hooyadeed oo daalan aad ayay uga xanaaqday in aabaha Sehyun uusan joogin si uu u difaaco dhanka kale Suji waxay rumaysnayd in haddii Taehae ogaato runta oo dhan aysan weligeed aqbali doonin xaaladda markii ay sheekaysanayeen Sehyun wuxuu yidhi haddii aysan jirin daacadnimo xiriir kasta wuu isbedelaa ha noqdo saaxiibtinimo jacayl ama xitaa qoys isla waqtigaas aabaha Sehyun wuxuu u safray in Jeon si uu u arko jacaylkiisii hore Yongwon ayaa weydiisay sababta uu u yimid Sekwon wuxuu ku jawaabay waxaan rabay inaan wejigaaga arko markii ugu dambaysay kadib ayuu jeestay si uu u baxo laakiin si lama filaan ah indhihiisa ayaa xanuunay wuxuuna gaarigiisa ku dhacay geed hooyada Taehae ayaa si degdeg ah isbitaalka ugu qaaday waxayna la xiriirtay Sehyun isbitaalka gudihiisa hooyada Taehae waxay qiyaastay in jacaylkeedii hore dib ugu soo laabtay 2 sano kadib sababtoo ah uu si daran u xanuunsan yahay waxay dareentay in labadooduba lagu ciqaabayo khaladaadkii hore waxay Sehyun u sheegtay in maalintii hooyadii shilka gashay ay ahayd isla maalintii Taehae uu gaariga ku dhacay darawalkii shilka geystayna weligiis lama helin waxay aaminsanayd in gabadheedu ay iyada darteed u ciqaabantay markii uu hadalkaas maqlay Sehyun wuxuu bilaabay inuu ka shakiyo in Taehae tahay gabadha haweenaydan hortiisa taagan dhanka kale Suji waxay raadisay Taehae waxayna u sheegtay run aad u culus waxay sheegtay in haweenayda uu aabaha Sehyun la socdo ay tahay hooyadeed waxay sidoo kale u sheegtay in hooyada Sehyun ay geeriyootay iyadoo ku sii jeeda inay la kulanto hooyadeed Taehae ayay uga naxday waxay garatay in hooyadeed si dadban sabab ugu ahayd xanuunka Sehyun iyo hooyadiis markii ay xasuusatay sida ay marar badan Sehyun ugu qalbi qaboojisay arrintaas waxay dareentay ceeb iyo qoomamo xitaa awood uma yeelan inay ka jawaabto wicitaanadiisa markii uu waayay meel uu ka helo Sehyun wuxuu aaday maqaayadii qaxwada ee ay ka shaqayn jirtay halkaas ayuu ka ogaaday inay shaqada ka tagtay kadib wuxuu aaday goobtii qarsoodiga ahayd ee ay saaxiibadu ku kulmi jireen wuxuuna si toos ah u weydiiyey Suji ma ogeyd in hooyada Taehae ay tahay haweenayda uu aabahay la socdo Suji way qiratay waxayna sidoo kale u sheegtay ha aniga ayaa Taehae u sheegay runta oo dhan markii uu taas maqlay Sehyun wuxuu garwaaqsaday in sirihii iyo dhaawacyadii la qarinayay ay ugu dambayn soo baxeen taasoo khatar gelinaysay jacaylkii uu la lahaa Taehae Sehon aad ayuu u niyad jabay ugu dambayntiin saaxiibtinimadii isaga iyo Suji way burburtay Suji oo murugaysan ayaa u cabatay Seju wuxuu soo jeediyey in la xidho goobtii qarsoodiga ahayd ee ay saaxiibadu ku kulmi jireen wuxuuna ka codsaday inay isaga si dhab ah u eegto wuxuu u sheegay mar walba waan kula jiri doonaa laakiin Suji si edeb leh ayay u diiday waxay sheegtay inay jeclaan lahayd inay saaxiibo ahaan u sii joogaan markii Seju arrinta xidhitaanka goobta u sheegay Sehon waxdan ah muusiin wuxuu yidhi mar dambe dib uguma noqon sidii hore Seju wuxuu dareemay in Suji si aan cadaalad ahayn loola dhaqmay laakiin Sehon wuxuu aaminsanaa inay ahayd doorashadeeda jawigu aad ayuu u xumaaday isla waqtigaas Kyung ayaa yimid oo bilaabay inuu Suji ku jeesjeeso taas ayaa keentay in Seju iyo Sehon labaduba garaacaan dhanka kale waxaa la ogaaday in aabaha Sehon uu qabo buro maskaxda ku taal wuxuu la xiriiray hooyada Suji si loo qabto baaritaan caafimaad Taehae habeen dhan waxay ku jirtay qol waxbarasho subaxdii waxay muuqaal ahaan ula hadashay aabaheed nasiib darro Sehon ayaa ka muuqday muuqaalka aabaheed ayaa ku kaftamay isagoo leh goormaad saaxiibka ii soo bandhigaysaa Taehae si degdeg ah ayay telefoonka u jartay Sehon ayaa isku dayay inuu sharxo wuxuu sheegay inuu dhowaan uun ogaaday cidda ay ahayd haweenayda uu aabihii la socday wuxuuna ka baryay Taehae inaysan ka tegin laakiin Taehae iyadoo murugaysan ayaa ku tiri markasta waxaan dareemi doonaa inaan dambiile ahay marka aan ku eego waxay intaas ku dartay inay rajaynayso inaanay mar dambe is arkin kadibna way ka guurtay gurigiisii ay uga fogaato Sehon wuxuu keligiis ku wareegayay wadooyinka isagoo jahawareersan ayeeyadiis ayaa markaas ka codsatay inuu dibadda ula safro maadaama ay aad u jeclayd Sehon wuxuu go'aansaday inuu runta u sheego wuxuu u sheegay inuusan ahayn wiilka dhalay aabihii ayeeyadiis aad ayay uga naxday waxayna Dr. Kim ku amartay in baaritaanka DNA-da dib loo sameeyo dhanka kale hooyada Suji ayaa aad uga xanaaqday markii ay ogaatay in gabadheedu wadatay gaarigeeda waxay ka mamnuucday inay mar dambe isticmaasho Suji ayaa weydiisay haddii gaarigu hore shil u galay sababtu waxay ahayd in Seju arkay meel dhaawac ah markii uu dayactirayay markii ay maqashay su'aashaas wejiga hooyadeed si lama filaan ah ayuu isu bedelay dhanka kale hooyada Taehae ayaa gabadheeda ka heshay jaamacadda laakiin Taehae si kulul ayay ula dhaqantay waxay hooyadeed ku tiri ninka aad la socotay waa aabaha wiilka aan jeclahay waxay kaloo sheegtay in xanuunka ay la kulantay uu dhammaantiis ka dhashay qaladaadkii hooyadeed Yongwon aad ayay uga naxday dhaawaca ay u geysatay gabadheed Seju wuxuu booqday goobtii qarsoodiga ahayd oo hadda madhanayd wuxuu xusuustay waayihii farxadda lahaa ee ay saddexdu wada qaadan jireen taasoo murugo gelisay dhanka kale caafimaadka Seokjun aad ayuu u xumaaday dhakhaatiirtu waxay sheegeen inuu baahan yahay qaliin maalin kale bukaan ayaa
jaranjarooyinka ka dhacay markii hooyada Suji daaweynaysay Taehae waxay dareentay in muuqaalku aad ugu eg yahay wax ay hore u aragtay. waxay weydiisay ma hore ayaan isku naqaanay. hooyada Suji ayaa si muuqata u walwalsanayd waxayna ku casuuntay xafiiskeeda. Taehae waxay si toos ah uga hadashay shirkii 2 sano ka hor dhacay. markaas ayaa runta weyn soo baxday. maalintaas hooyada Suji waxay si ula kac ah uga caraysiisay hooyada Sehun kadib markii Taehae gaari ku dhacay. hooyada Suji ayaa goobta joogtay. waxay u sheegtay Taehae inay meesha iska joogto laakiin iyadu way ka baxsatay goobta. Taehae ayaa markaas garatay runta. hooyada Suji ayaa ahayd darawalkii shilka geystay ee baxsaday. waxay si cad ugu eedeysay inay been sheegtay oo ay dusha ka saartay hooyada Sehun. hooyada Suji waxay isku dayday inay eeda saarto hooyada Taehae laakiin Taehae si adag ayay ugu jawaabtay runta qiro. markii Suji aragtay hooyadeed oo ooyeysa waxay mooday in Taehae waxyeello u geysatay. dhanka kale Taehae waxay Sehun u sheegtay runta oo dhan. waxay u sheegtay in hooyada Suji ay ahayd qofkii dhabta ahaa ee shilka geystay. Sehun ayaa kula taliyay inay booliiska u sheegto laakiin Taehae ma rabin inay mar kale dib ugu noqoto xanuunkaas. Sehun ayaa qalbi qaboojiyey. wuxuu yiri aan diiradda saarno mustaqbalkeena. markii dambe Suji ayaa kula kulantay labadooda goobta baabuurta la dhigto. iyadoo xanaaqsan ayay ku sigatay inay gaarigeeda ku dhufato laakiin ilbiriqsigii ugu dambeeyay ayay biriga qabatay. Sehun wuxuu ku eegay indho nacayb iyo niyad jab leh. Suji qalbigeedu aad ayuu u dhaawacmay. Seju ayaa arkay iyadoo ooyeysa wuxuuna geeyey goobtii qarsoodiga ahayd. wuxuu u ballan qaaday inuu weligii ka tegi doonin. kadib Sehun ugu dambeyntii wuxuu dhageystay codkii la duubay. markaas ayuu ogaaday doorka ay hooyada Suji ku lahayd geerida hooyadiis. wuxuu ula kulmay si toos ah wuxuuna ku amray inay qirato runta. Suji ayaa si kama ah u maqashay wada hadalkaas waxayna la ilmaysay xanuun iyo murugo. muddo kadib waxay bilowday inay habeen kasta qaadato kiniino hurdo mar walbana. Seju ayaa dhinaceeda joogay. ugu dambeyntii natiijadii cusub ee DNA-da ayaa soo baxday. waxaa la xaqiijiyey in Sehun dhab ahaantii yahay wiilka Seokjun. markaas ayuu fahmay in laga yaabo hooyadiis si ula kac ah uga been sheegtay arrintaas si ay aabihii u dhibto. Sehun wuxuu aqbalay inuu ayeeyadiis la aado dibadda wuxuuna ka codsaday xoghayaha Don inuu diyaariyo safarka ka hor intuusan bixin. wuxuu booqday aabihii markii ugu dambeysay. aabe iyo wiil waxay gaareen isfaham iyo nabad. aabihiis wuxuu qirtay in noloshiisa oo dhan uu ku noolaa isagoo aan haysan xorriyad uu go'aanadiisa ku gaaro. Sehun ayaa ugu dambeyntii fahmay xanuunka iyo culayska uu aabihii sannado badan la noolaa. sidaas ayay colaadii iyo sirihii qoyska muddo dheer qarsanaa tartiib tartiib ugu soo dhammaadeen ka hor intuusan dibadda u dhoofin. Sehun wuxuu Taehae ka codsaday hal kulan oo jacayl oo ugu dambeeya. wuxuu mar walba daba socday ilaa ay ugu dambeyn ogolaatay inay dib ugu soo laabato gurigoodii hore. Suji ayaa arkaysay iyaga oo wada socda balse si aamusan ayay uga dhaqaaqday iyadoo keligeed ah. dhanka kale Haejung iyo Dohan waxay u wada socdeen si qarsoodi ah iyadoo Suji ka caawinaysay inay xiriirkooda qariyaan laakiin Kyung ayaa ogaaday arrintaas. wuxuu Suji ku canaantay inay Haejung wado khaldan ku hogaaminayso. hase yeeshee Haejung ayaa si geesinimo leh u difaacday saaxiibkeed Dohan. waxay xitaa Kyung ugu yeertay qof fool xun. markii dambe Kyung wuxuu arrinta oo dhan u sheegay hooyada Haejung. markii ay maqashay in gabadheedu saaxiib leedahay hooyadeed waxay ku xirtay qolkeeda laakiin Haejung way ka baxsatay guriga. dhanka kale aabaha Taehae ayaa gabadhiisa ku dhiirigeliyey inay raacdo qofka ay jeceshahay si aysan mustaqbalka uga shalayn. Sehun iyo Taehae waxay qaateen kulankoodii ugu dambeeyey ee jacaylka. Sehun wuxuu u diyaariyey buug sawiro uu ku qoray qiraalkiisa jacaylka iyo sawiro uu iyada ka sameeyey. wuxuu rajaynayay inay cafin doonto. dhanka kale Suji waxay Seju u sheegtay in iyada iyo Sehun labaduba dibadda u dhoofayaan. aad ayay uga murugootay in saaxiibtinimadii saddexdooda ahayd ay hadda burburayso. waxay dareentay in kooxdoodii ugu dambeyn kala daadanayso. run ahaantii Suji muddo dheer ayay ogeyd in Seju uu jeclaa. markii ay guriga ku noqotay hooyadeed ayaa weydiisay sababta ay hadalladaas ugu sheegtay aabaha Sehun. kadibna waxay mar kale u sheegtay sirta ku saabsan Sehun. waxay sheegtay inuusan ahayn wiilka dhabta ah ee aabihii. Suji aad ayay uga walwashay. waxay qaadatay boorsadeeda gurigana way ka baxday. waxayna Seju ka codsatay inuu ka caawiyo raadinta Sehun. dhanka kale Sehun wuxuu Taehae geeyey maqaayad gaar ah si ay waqti gaar ah u wada qaataan. maqaayadaasi hal miis oo keliya ayay lahayd. Taehae aad ayay ugu heshay dadaalka iyo daacadnimadiisa. Sehun wuxuu doonayay inuu runta oo dhan u sheego. wax kasta oo qalbigiisa ku jiray ayuu ku qoray buuggii sawirada. wuxuu rajaynayay inuu fursad u helo inuu siiyo oo uu ka codsado cafis. dhanka kale Suji waxay hooyadeed u sheegtay inay rabto inay dibadda waxbarasho ugu baxdo. markaas ayay ogaatay in Sehun isaguna dhoofayo. waxay mar kale Seju u sheegtay sida qalbigeedu u jabay. waxay ku celcelisay inaysan doonayn in saaxiibtinimadoodii saddexda qof ahayd sidaas ku dhammaato. markuu arkay sida ay u murugaysan tahay Seju wuxuu ballan qaaday inuu wax walba isku dayi doono si xaaladdu sidii hore ugu noqoto. kadib wuxuu la kulmay Sehun. wuxuu u sheegay in mar kasta oo Suji magaciisa sheegto ay indhaheeda ka muuqato murugo. wuxuuna kula taliyey inuu dib ugu soo laabto saaxiibtinimadoodii hore laakiin Sehun wuxuu si cad u sheegay in qalbigiisu hadda jecel yahay Taehae wax walbana aanay dib ugu noqon karin sidii hore. markii uu arkay sida uu uga go'an yahay Seju wuxuu qaatay go'aan adag. wuxuu go'aansaday inuu Taehae u sheego runta oo dhan. wuxuu la xiriiray iyada wuxuuna ka codsaday inay la kulanto. Taehae waxay timid goobtii qarsoodiga ahayd. halkaas Seju wuxuu tusay dhammaan xogtii ay ka ururiyeen. iyada wuxuu sidoo kale tusay muuqaalo muujinaya sida isaga Sehun iyo Suji u qorshayn jireen kulamadii ay ka dhigi jireen kuwa lama filaan ah. waxaa soo baxday in Seju uu bilowgii hore duubi jiray wax walba. xaqiiqadu waxay ahayd in dhammaan kulamadii quruxda badnaa ee Taehae iyo Sehun aysan ahayn kuwa iska dhacay. wax walba waxaa hore u qorsheeyey saddexda saaxiib. Taehae hadal uu ka soo bixi waayey naxdin ayay la aamustay. kadibna goobtii ayay ka baxday iyadoo jahawareersan. murugada iyo niyad jabka qalbigeeda ka buuxay ayaa ka dhigay inay dhulka ku fadhiisato iyadoo awoodi weyday inay istaagto. ilaaliye amni ayaa u maleeyey inay xanuunsan tahay wuxuuna isku dayay inuu caawiyo. islamarkaas ayuu Sehun soo wacay maadaama Taehae aysan jawaabi karin ilaaliyihii
ayaa taleefanka qabtay markii Sehun maqlay inay xaalad xun ku jirto si degdeg ah ayuu ugu yimid markii uu ogaaday inay runta oo dhan ogaatay qalbigiisu uu burburay wuxuu ooyay isagoo ka baryaya inay u ogolaato inuu sharaxo laakiin Tae mar dambe ma awoodin inay aaminto waxay si kulul ugu tiri wax walba way dhamaadeen mar dambe yaanaynu is arkin Sehun aad ayuu uga xanaaqay Seju wuxuu u tagay si uu ula xisaabtamo ma uusan fahmin sababta uu arintaas u sameeyay wuxuu sheegay inuu hore u go'aansaday inuu qirto khaladkiisa oo uu cafis dalbado laakiin Seju ayaa ka qaaday xitaa fursadda Sehun wuxuu rabay inuu garaaco hase yeeshee ma awoodin taa bedelkeeda wuxuu feed ku dhuftay sawirkii saddexdooda ku wada jireen muraayadii ayaa jabisay gacantiisa kadib wuxuu aaday isbitaalka si dhaawaca loo daweeyo hooyada Suji ayaa daweysay gacantiisa waxayna ku qancisay inuusan ka walwalin qaliinka aabihii markii aabihii qolka qaliinka la geliyay Sehun si weyn ayuu u nafisay dhanka kale Tae iyadoo aan ogeyn ayay tagtay istaankii baska ee ay markii ugu horeysay kula kulantay Sehun markii ay xasuusatay waqtiyadii quruxda badnaa iyo runta xanuunka badan ee hadda soo baxday way oyday kadib waxay aaday goobta shaqada ee hooyadeed aad ayay uga walwalsanayd laakiin Tae waxay si degan ugu nasatay kursi waxay dareentay in tan iyo markii ay Seoul timid dhibaatooyin badan ku habsadeen sidaas darteed waxay rabtay inay dib ugu noqoto Jarmalka oo ay la noolaato aabaheed dhanka kale Seju wuxuu Suji u sheegay wixii dhacay Suji ma aysan doonayn inuu saaxiibtinimadiisa la waayo Sehun sidaas darteed waxay ku tiri dhammaan eeda dusha iga saar u sheeg inay ahayd fikradayda isla waqtigaas Hyejung oo guriga ka baxsatay ayaa wacday Suji si ay gargaar u weydiisato Suji waxay u diyaarisay inay ku dhuumato goobtii qarsoodiga ahayd dhanka kale hooyada Hyejung waxay ku sigatay inay waalato kadib markii ay gabadheeda heli weyday Kyung wuxuu ka faa'iidaystay xaaladda si uu ugu dhawaado haweeneyda mustaqbalka noqon lahayd sodohdiis dhanka kale Suji waxay booqatay Sehyon oo isbitaalka ku jiray waxay qaadatay mas'uuliyadda wixii dhacay oo dhan waxay qiratay inay iyadu ahayd qofkii Seju ku amray inuu Tae u sheego runta laakiin Sehyon ma eedeyn wuxuu yiri in markii hore ujeedadiisu ahayd inuu la ciyaaro dareenka Tae sidaas darteed hadda xaq uma lahayn inuu cid kale dhaleeceeyo si kastaba ha ahaatee wuxuu ka codsaday Suji inaysan mar dambe is arkin Suji oo saaxiibtinimada qiimo weyn siin jirtay waxay ku sigatay inay lumiso saaxiibkeedii ugu dhawaa waxay ka shalaysay wixii dhacay waxay istiri haddii aan ogaan lahaa in saaxiibtinimadeenu sidan ku buri doonto iyo in Sehyon si dhab ah u jeclaan doono Tae weligay ma bilaabeen ciyaartan laakiin nasiib darro nolosha laguma laabto wixii dhacay dhanka kale aabaha Tae ayaa maqlay wararka wuxuuna si farxad leh ugu yimid si uu gabadhiisa ugu wado Jarmalka markii uu la kulmay xaaskiisii hore si degan oo dabiici ah ayuu ula hadlay Tae way la yaabtay waxay fahmi weyday sida uu weli si wanaagsan ula dhaqmi karo haweeneydii dhaawaca badan u geysatay aabaheed ayaa ku jawaabay qalbiga aadamka waa sida murqo aan la xakamayn karin jacaylka aan laga helin jawaab celin xitaa mararka qaar waa farxad ma uusan doonayn inuu qariyo dareenkiisa dhanka kale Kyung wuxuu ogaaday meesha Hyejung ku dhuumanayso wuxuu damcay inuu hooyadeed u sheego laakiin markii uu arkay sida hooyadu u jahawareersan tahay oo ay xakamaha lumisay arrimuhu way isbedeleen hooyada Hyejung waxay sidoo kale aragtay Kyung oo si xun ula dhaqmaya walaalka yar waxay xasuusatay in Hyejung rabtay inay jabiso balantii guurka markaas ayay si tartiib ah u fahamtay khaladaadkeeda waxay si adag u canaanatay Kyung waxayna bilowday inay ka qoomamayso ficiladeedii hore dhanka kale Suji ugu dambeyn waxay go'aansatay inay Tae raali gelin siiso waxay u sheegtay inay dhab ahaantii qadariso waxay ku tiri waxaan ku jeclaa sida aad qalbigaaga u fahantay Suji waxay qiratay in iyadu weligeed fahmi weyday inay Sehyon jeclayd ilaa ay ka daahday sidaas darteed waxay weyday qofkii ay qalbigeeda siisay laakiin inkastoo ay raali gelintaas bixisay Tae weli waxay go'aansatay inay Kuuriyada Koonfureed ka tagto waxayna doonaysay inaanay mar dambe Sehyon hortiisa ka soo muuqan dhanka kale xubno ka tirsan Myungjung Group oo laaluush qaatay ayaa baaritaan lagu qabay hooyada Suji sidoo kale waxaa lagu daray baaritaanka xeer ilaaliyaal ayaa isbitaalka yimid si ay u baaraan dukumiintiyada Suji aad ayay uga walwalsanayd laakiin hooyadeed ayaa dejisay waxay u sheegtay inaysan si toos ah ugu lug lahayn dembiyadaas markii Seju maqlay wararka isla markiiba ayuu u yimid Suji inkastoo uu si qoto dheer u jeclaa haddana mar walba isaga ayaa ahaa qofka ugu badan ee dhaawacma dhanka kale Kyung wuxuu guriga ugu laabtay aabihii wuxuuna uga cawday in qoysku waalan yahay kadib markii la joojiyey qorshihii guurka aabihii ayaa si adag u canaantay wuxuuna ku amray inuu raali gelin bixiyo Kyung isagoo aan jeclayn ayuu dib ugu noqday wuxuu u sheegay walaalka Hyejung inuu yaqaan meesha ay ku dhuumanayso kadib wuxuu kaxeeyey isaga iyo walaalka Seju saddexdoodii waxay tageen goobtii qarsoodiga ahayd markaas Hyejung waxay casho la cunaysay Dohun wuxuu kula taliyey inay beri gurigeeda ku noqoto way ogolaatay wax yar kadib albaabka ayaa la garaacay Dohun ayaa furay laakiin isla markii uu albaabka furay walaalka Seju ayaa madaxa kaga dhuftay ulo golf ah walaalka Hyejung aad ayuu uga naxay wuxuu rabay in Dohun isbitaalka loo qaado laakiin Kyung ayaa joojiyey intii jahawareerku socday waraaqihii iyo xogtii qorshihii lagu khiyaamay Tae ayaa dhulka ku daatay Kyung markuu arkay dukumiintiyadaas si degdeg ah ayuu u fahmay sirta oo dhanka kale Seju ayaa lala soo xiriiray oo loo sheegay waxa dhacaya wuxuu si degdeg ah ugu yimid goobta laakiin isla markii uu gudaha galay ayaa la garaacay kadibna waa la xiray Kyung wuxuu qaatay taleefankiisa wuxuuna Sehyon ugu yeeray isagoo iska dhigaya Seju sidaas ayuu dabin ugu dhigay ujeedadiisu waxay ahayd argoosi kadib wuxuu ku amray walaalka Hyejung inuu iyada iyo Dohun meesha ka saaro isagu wuxuu doonayay inuu halkaas ku sugo Sehyon markii ay baxeen Hyejung iyadoo baqaysa ayay wacday macalimadeeda Tae waxayna uga warantay wixii dhacay dhanka kale Kyung wuxuu doonayay inuu Tae tuso dukumiintiyadii uu helay Sehyon ma doonayn in Tae mar kale dhaawacanto sidaas darteed wuxuu isku dayay inuu Kyung joojiyo dagaal culus ayaa qarxay isla waqtigaas Tae ayaa soo wacday markii ay maqashay codadka dagaalka iyo Kyung oo Sehyon dhaawacaya si degdeg ah ayay ugu soo carartay goobta waxay isku dayday inay joojiso rabshada waxayna ku hanjabtay inay booliska wacayso laakiin Kyung ayaa taleefankii ka qabsaday intii ay isjiidayeen Sehyon ayaa u soo booday si uu Tae u ilaaliyo Kyung oo xanaaqii ka batay ayaa qaatay ulkii golfka kadibna si xoog leh ayuu Sehyon ugu dhuftay Tae waxay isku dayday inay joojiso laakiin
Sehyon wuxuu u qaatay darbaaxadii ugu xumayd si uu iyada u badbaadiyo wuxuuna ku dhacay isla goobta isagoo miyir belay si degdeg ah ayaa isbitaalka loogu qaaday markii Tae aragtay Sehyon oo dhiig badan ka socda haddana miyir beelay aad ayay u argagaxday kadib daaweyn degdeg ah dhakhaatiirtu waxay ku guuleysteen inay khatarta degdega ah ka saaraan laakiin dhaawacii madaxa ayaa ahaa mid aad u daran cadaadiska maskaxdiisa ayaa sare u kacay wuuna soo jeedi waayey Tae waxay go'aansatay inay sariirtiisa ag fadhido maalin iyo habeenba way daryeelaysay dhanka kale Kyung wuxuu raadiyey Suji wuxuuna u sheegay inuu ogaaday qorshahoodii oo dhan kadib wuu ku jeesjeesay xitaa wuxuu tusay muuqaal muujinaya Sehyon iyo Seju oo la garaacayo markii Suji aragtay muuqaalkaas qalbigeedu aad ayuu u xanuunay waxayna garwaaqsatay in dhammaan khaladaadkii iyo sirihii hore ay hadda sababeen musiibo aad uga weyn intii ay filanaysay Suji si waali u eg ayay ula xiriirtay Seju si ay u ogaato waxa dhacay markii ay aragtay Seju oo dhaawacan iyo Sehyon oo miyir laan ah qalbigeedu aad ayuu u xanuunay cadaadiska badan ee nolosheeda ka jiray awgii Suji waxay sii kordhisay ku tiirsanaanta kiniinada dejinta iyo hurdada maalin kadib hooyadeed ayaa laga sii daayay baaritaankii lagu hayay markii ay guriga timid waxay aragtay Suji oo dhulka ku dhacday gacmaheedana dhiig ka socdo sababtoo ah kiniino badan oo ay qaadatay Suji waxay bilowday inay waxyaabo aan jirin aragto waxay xitaa dhaawacday curcuraheeda hooyadeed si degdeg ah ayay isbitaalka ugu qaaday nasiib wanaag dhaawacyadu ma ahayn kuwa qoto dheer dhakhaatiirtu waxay sheegeen inaysan saamayn doonin ciyaarista seloga ay jeceshahay markii Seju arkay waxa Suji isku samaysay aad ayuu isu necbaaday wuxuu dareemay inuusan awoodin inuu ilaaliyo qofka uu jeclaa isagoo ooyaya ayuu go'aan qaatay wuxuu go'aansaday inuu si aamusnaan ah uga tago dhammaan jahawareerkaas wuxuu rabay nolol xor ah oo ka fog dhibaatooyinka markii Suji soo toostay waxay ogaatay in Seju baxay waxay tagtay jidkii yaraa ee ay xusuustooda badani ku jireen iyadoo ilmeynaysa ayay qalbigeeda ka ducaysay meel kasta oo aad joogto waxaan rajaynayaa inaadan kelinimo dareemin dhanka kale Tae waxay codsatay inay waxbarashadeeda hakad geliso waxay qorsheynaysay inay dib ugu noqoto Jarmalka iyadoo aabaheed la socota marka Sehyon ka bogsado xanuunka intii uu miyir la'aanta ku jiray maalin kasta way daryeeli jirtay waxay nadiifinaysay gurigiisa markii ay heshay buuggii qiraalka jacaylka ee uu u qoray waxay fadhiisatay sariirtiisa agteeda kadibna waxay furtay buuggii oo bilowday akhriskiisa markaas ayay ugu dambayntii fahamtay in Sehyon muddo dheer doonayay inuu runta oo dhan u sheego dhanka kale qaliinkii aabaha Sehyon si guul leh ayuu ku dhamaaday ayeeyadii ayaa u sheegtay runta waxay xaqiijisay in Sehyon dhab ahaantii yahay wiilkiisa waxay sheegtay in hooyadiis waagii hore ka been sheegtay DNA-da si ay uga aargudato khiyaanadii uu sameeyey aabaha waxaa buuxiyey qoomamo iyo murugo wuxuu fadhiistay sariirta wiilkiisa teeda isagoo ooyaya dhanka kale Kyung xaaladiisu way sii xumaatay kadib markii uu colaad la galay qoysaska maalqabeenka ah shirkadii qareennimada ee uu ka shaqaynayay aad ayay hoos ugu dhacday Haejung hooyadeedna ugu dambayn way fahamtay dhibaatada gabadheeda waxay ballan qaaday inaysan mar dambe ku qasbi doonin wax aysan rabin in ka badan 2 toddobaad iyo badh ugu dambayntii Sehyon ayaa indhaha kala qaaday Tae qalbigeedu ugu dambayn uu degay waxay saaxiibteed Kyung Juka satay inay ubax u geyso waxay dareentay in hadda oo uu soo jeeday aanay jirin sabab ay mar dambe u kulmaan Kyung Ju ayaa Sehyon u sheegtay runta waxay u sheegtay in Tae maalmo iyo habeenno badan sariirtiisa ag fadhiday intii uu kooma ku jiray markii uu taas maqlay Sehyon si aamusan ayuu u ooyay laakiin ma uusan ka daba tegin wuxuu siiyey labadoodaba waqti ay ku bogsadaan 5 sano kadib Tae waxay ku guuleysatay waxbarashadeeda waxay noqotay naqshadeeye dhismayaal oo caan ah maalin kasta shaqadeeda ayay xoogga saaraysay hooyadeedna waxay qabatay bandhig kale oo farshaxan xiriirkooda hooyo iyo gabar aad ayuu uga wanaagsanaaday sidii hore dhanka kale Suji weli waxay diiradda saartay xirfadeeda selogatan iyo markii hooyadeed shaqada ka fariisatay waxay waqti badan la qaadanaysay gabadheeda xoghayaha Don ayaa mar kale ku casuumay inay shaqada ku noqoto laakiin way diiday waxay sheegtay inay ku faraxsan tahay nolosha ay hadda haysato waxayna rabtay inay waqti badan la qaadato Suji maalin maalmaha ka mid ah Suji waxay heshay booqweed ubax ah qofka soo diray lama garanayn gudaha kaarka waxaa ku qornaa cinwaan iyadoo yaaban ayay halkaas tagtay markii ay gaartay waxay ogaatay inuu yahay maqaayada Seju ee Japan ugu dambayn kadib sanado badan way kulmeen Suji ayaa u carartay waxayna si adag hab u siisay Seju isaguna si tartiib ah ayuu ugu jawaabay isku duubistaas markaas ayaa la ogaaday in Sehyon ahaa qofkii siiyey cinwaanka dhanka kale Tae waxay joogtay xafiiskeeda waxay saaxiibteed uga cabanaysay macmiil dhib badan macmiilkaas ayaa mar walba waa beriga email u diri jiray si uu naqshadaha ugala hadlo saaxiibteed ayaa kula talisay inay si shakhsi ah ugu tagto goobta sidaas darteed Tae waxay aaday guriga macmiilka sidii lagu ishiyey markii ay gudaha gashay waxay aragtay sawirro badan oo gidaarada suran waxay si lama filaan ah u garatay in dhammaan sawirradu yihiin meelihii iyada iyo Sehyon wada tageen markii ay isjeclaayeen shaki ayaa galay waxay si degdeg ah ugu oroday dabaqa labaad halkaas waxaa ku sugayay Sehyon waxay ahayd markii ugu horeysay ee ay is arkaan kadib kala tagoodii 5 sano ka hor labadooduba way aamuseen daqiiqad kadibna si macaan ayay hab isku siiyeen dhammaan murugadii sirihii qoomamadii iyo dhibaatooyinkii ay soo mareen kadib ugu dambayn waxay heleen dhammaad farxad leh Sehyon iyo Tae waxay is heleen mar kale halka Suji iyo Seju iyaguna dib isu heleen sidaas ayuu filimku ku dhamaaday isagoo muujinaya in jacaylka dhabta ahi mararka qaar ka gudbo khaladaad waqti iyo xanuun badan laakiin ugu dambayn uu heli karo waddo uu ku guuleysto